بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan galab wanaagsan samadoon macadka la yiraahdo macad samadoon lidaraasad salaam wal istiraatiijiya wuxuu idinku soo dhaweynayaa hoolkiisa shirarka iyo barnaamijyada doodaha inay sameeyaan gacal iyo gacmo farbo ku soo dhawaada qof walba miisaankiisa maqaamkiisa iyo magaciisa aynu ku soo dhaweynaynaa intaas kadib dabcan waxay la tahay ciwaanka barnaamijkeena dooda ee galabta aad ayaad uga dharagsantihiin waxaynu ka doodeynaa qodob muhiim ah oo macadka samadoon markii uu arkay saameynta ay leeyihiin walaalaha qurba joogta ah dhanka siyaasadda iyo qeybaha kala duwan bulshada iyo doorka ay ka ciyaarayaan intaba waxa uu istaagay in uu baaritaan iyo fiiro gaar ah uu ku sameeyo bal qurba joogtii dirada badneed ee soo gashay dalka saameynna ku yeelatay siyaasadda iyo qaybihii kale bulshada intaba kaalinta ay ku leeyihiin maxay tahay nabadda dhismaha nabadda sidoo kale nabad miimaad dowladnimada naftirkeeda dhismaheeda kaalintee leeg ayay markaasi ku leeyihiin guulaha dib u dhacyada iyo waxyaabaha la filan kara intaba waxaa loo soo xulay galabta qodobkaas inay ka doodaan oo wax badan ay ka yiraahdaan dad nuqba ah oo aan isleenahay way ugu mudan yihiin in ay falanqeeyaan qodobkaas oo qurba joog ah in badan wadamada dibadda ku noolaa waxaa ka mid ah martida galabta dooda nagala qayb galaysa xildhibaan xuseen carab ciise oo horey u ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumadda ahaana wasiirkii gaashaandhiga xubin baarlamaanka golaha shacabka ka tirsan gaar ahaan gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb galaya qurba joogtana ka mid ah dabcan xuseen wuxuu ka yimid maraykanka qurba joogtana ka mid ah walaalkay dhinacayga fadhiya cabdullaahi maxamed aadan salaamullaahi oo ahaa gudoomiyaha soomaalida diaspora gaar ahaan soomaalida UK haddana ah gudoomiyaha dalada qurba joogta ku sugan dalka Soomaaliya SDRN iyo sidoo kale waxaa laga qayb galaysa oo qurba joogta ka mid ah walaasheen nadiifo sheekh Umar oo iyadana ka mid ah walaalaha wax badan ku maqnaa dalka dibadiisa qurbaha joogay aqoon-yahanada wax ku soo baratay xaggaas iyo dibadaha kadibna tiri dalka Soomaaliya waa ina aqoonteeda xoogayga iyo caqligayga waa la tagaa waqti badan ka shaqeynaysa qaybo kala duwan oo ka mid ah meelaha muhiimka ah bulshada Soomaaliyeed xildhibaanku waa uu noo soo gali doonaa goordhow barnaamijkeena ayaynu si amqaadi doonaa insha Allah waqtiga waxaysano oo doodan aynu ku falanqeyn doono waxay ahaan doontaa muddo hal saaca oo ay nagala qayb gali doonaan mas'uuliyiinta aan soo xusay dabcan idinkana jaaris ay u heli doontaan inaad comment ka bixisaan ama fikirkiina ku biirisaan ama su'aal aad weydiisaan intaba waa kala qaadi doonaa dabcan su'aalaha sidoo kale su'aasha ugu horeysa waxay noqon doontaa kaalinta qurba joogta nabadda si gaar ah marka hore aan u weydiiyo dhinacayga midigna waxaa fadhiya cabdullaahi maxamed aadan salaamullaahi ku magac dheer soo dhawow marka hore بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدني المروين وكفر حسنا رنتي مناسبة قرح بدن أي سمدون ميديا جروب أي نوسو دويين أما ينوع عزومين مركز كوبات وأمها النقينا مركز لبعض كسوق جلاش قرح بدن وأمها النقيا جارهان وحنوسي ما النقيا رنتي وحي موقت ضدك هرفدني هرتنا فدي إليين almost haddii aan qiyaaso 80 or 90% boqolkiiba 80 ama 90 waxa meesha fadhiya waa dhalinyaro marka tilmaamaha la sheega in dalkani dhalinyaradu ay mataqaana majority tahay waa iska caddahay marka goob kasta oo aan tagnana sidaa un baan u aragnaa marka waxaan leenahay dhalinyarada ay ha noqdeen kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda u adeega nabadda qaranka Soomaaliyeed ka shaqeeya inta kadib 2017 bishii June 26 sano kadib ayaan dalku ku soo noqday markii aan 3 bilood joogay
waxaan ii soo baxday in ay nabaddu meeshani especially caasimadii dalka waa in runta nafteyda aan laga bilaabo dugsi hoose dhexe ilaa jaamacad aan uga baxay mataqaanaa weliba dugsigayga sare igama dheere waa banaadir high school oo ahaa waxaa ii muuqatay inay qurba joogto ay ku leeyihiin ama waajib ay ku tahay inay kaalin ku yeeshaan arrintaas marka waxaan samaynay debateyo doodaan samaynay groups ah waxaan samaynay survey aan ka samaynay dadka dhexdooda 75 video clips oo zoonayaal kala duwan magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan aan ka samaynay markii aan ururka aas-aasnay SDRN loo yaqaan Somali Diaspora Returnees Network and Social Awareness ururka dalada qarbi joogta dalka ku soo noqotay iyo wacyigelinta bulshada dalada isku xirka qurba joogta dalka ku soo noqotay iyo wacyigelinta bulshada oo loo yaqaan SDRN hadii ilaahay idmo waad ku wada martiqaadaynaa kulanka sanadlaha ah oo sanad walba ay daladu samayso oo dhici doona bisha February hadii ilaahay cimriga uu gaarsiin labadeeda dhammaantiin waad ku martiqaadaynaa insha Allah biidinillaahi alkariim waxaan noogu wakiil noqon doonaa Samadoon Media insha Allah inta kadib waxaan aaminsanahay runtii meel ay baahi ka jirto inay nabad ka imaanaynin marka waxaan wada ognahay sidaa darteed hadalka soo koobay inaan ku sii dheeraado ma rabo nabaddu kaalin weyn ayay ka qaateen diasporaha haddii ay dhinaca dhaqaalaha noqon lahayd haddii dhinaca wacyigelinta ay noqon lahayd aad baa mahadsantahay waa tahay adaa mudan diaspora waxaa sheegtay in nabadda kaalin mugle ay ka qaateen waa kuu soo laaban doonaa anigoo ku weydiin doono in cadeemo iyo waxyaabo lamid ah soo bandhigtid laakiin marka kale aan iyana soo dhaweeyo Nadiifo Sheekh Cumar oo kamid ah qurba joogta diyaashiyaasha qurba joogta weliba waqti badan aad ku sugnayd Nadiif soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلين قلب وناكسن جمع وناكسن بسم الله الرحمن الرحيم وحيدك السلام مقامك أبو فرسان وحيدك جمع هدعينينا ماركتي إن اعتمادان وعن ديار النهاي وحي مجدو إذا كجتشرو دورك قرب شوفت إن إذا كجتشوامنو وحي رأيه أكقبتان إذا كدقيسنو وأقول إسويدارسي عن أي ماشي كدعدون هدي إلهي إدمو waxay ila tahay mowduuc aad u muhiim u yahay organization-ka Samadoonna aad ugu mahadcelinaynaa fursadda noo siiyay inaan is aragno sida arkaysaan organization-ka Samadoon kulligeen waxa waaye magacna wada qanciye ila tahay Soomaa marka Samadoon ayaa maanta marti u wadanahay inaan kala faa'iideysano oo maaragtay waxaad ka qabtiin iyo waxaan ka qabnaa isku sheegnay ila tahay haddii aan usoo noqdo su'aashii ahayd macnii door intee la eegay qurba joogtu ka qabaan xaaladaha maaragtay amniga iyo nabadeynta waxay ila tahay wadankeena ilaahay qudradiis ayuu siduu yahay hadda ku ahaaday haddii aan fiiriyo dadka maaragtay oodiyanka oo fadhiyana waxay ila tahay 80% ama 90 idin kamid ma ogeyn wixii dhacay ayadoo dib lagu jira aragteen dad yar ayaa uga jeedaa wax oo maaragtay ama da'dayda ama ila eg ama ugu aadan marka intaas oo sano marka waxaa tiin maaragtay dadkii hurday maaragtay oo hal mar soo kacay amal marka waxaan u baahanahay wax badan inaan isku sheegno inaan taariikhda la ka hadalno in maaragtay dhibaatooyinka wadankan maxaa halkan keenay qurba joogta hadaan ku soo noqdo Soomaaliya inay meesha amaanti joogto ay joogto oo kulligiin saa u qurux badnaataan oo ma sha Allah 12 saac galabnimo aan meesha isugu imaano waxa keenay shaqo la wada qabtay ku dalka joogay ku dibadda jooga markay isku tashteen markii dhibaatada iyo rafaadka wadanka ka bixi waayay markii Soomaaliya ay burburto meel looga yimid ay garan waayeen ayaga oo aan loo jeedin cadow dhex joogo oo iyagu dhexdooda isburburiyeen ayaa dad ilaahay raali ka yahay u soo diray dalkan inuu maaragtay u badbaadiyo dadkaasina waxay isugu jireen qurba joog iyo dadka kale oo dalka ku haray oo aan fursad u helin iyagana inay baxaan waxay ka soo qaday shirkii nabadeynta ilaa maaragtay carte ilaa maaragtay Kenya ka dhacay waxaasoo dhan door ayay ku lahaayeen labada dhinacna way joogeen
marka waxay ila tahay waa hawl wadajir loo wada qabtay annagana kaalinta ugu badan aan ka qaadano 70% ba aan dhaha adinkana 30% aan ka qaadateen marka wada shaqayn la'aan meeshaas kama dhicin waa tahay intaad microphone iska soo dhiibin markii la laho doorka nabadda laba qayboodba waa lagu soo eegayaa ka nadiif ahaan mar waxa weeyaan waxaa matalaysaa dumarkii oo haddana adigoo mas-uulka ah dumarka Soomaaliyeed ayaa siyaasadii kaalin mugul ka ciyaartay meelo fara badan ka soo muuqatay marna qurbo joogtii marka ma isleedahay mar walba dhaliisha way badan tahay ku saabsan in raggii nabadii ay wax ka qaban waayeen dumarkiina ay ka jiifteen haddana idinkiiyo faraha kula jira hooshii oo la qaybsanaya aan la mid tihiin oo taas macnooyin kale ay samayn karto والله وارنتا هدي ماركتي بنال كان ومانتا أهان لها بنال ماركتي عدالة وجستيس أما عدالة لو قيبنايو ما أنت اللي حاول صار لا يهرت محكمة عدالة درنا ولا حكم لها لكن الحمد لله ما أحبنا الأساسة وبنا اللوجه الله يعرف كده هدي أن أصلا نقدر هوينك الصومالية ولا دبرك أمدا haweenka Soomaaliyeed la'aantood wax hagaagi lahay ma jiraan haweenka Soomaaliyeed haday dibadda jireen oo tageenna waxaan gaajo u dhimanin maamadii gabar u baxday kaajo uma dhiman hase yeeshee waa la arkay maamo 5 wiil 6 wiil dirsatay oo gaajo u dhimatay ama dariska ay duugeen markii dalka lagu soo noqdayna burburkii dhacayna nin walbana uu yiri qabiila la ii dilayaa reer hebel la ii dilayaa waxa uu istaagay waxay ahaayeen gabdho Soomaaliyeed waxa ilaa hadda taagan oo levelka nolosha ugu hooseyso jooga ama dhexe jooga waa gabdho Soomaaliyeed oo weli helin xaqoodii iyo kafaaladoodii aan lagu marti qaadin aan la dhihin maanta abaalmarin ayaa u leeyihiin wiilasha aad aragteen ee dagaalada ku dhaxdhashay oo dhalinyarada maanta hor fadhiso waxa u soo halgamay waa hooyo waxa iskoolka u diray waa hooyo haddii rabto shaaha kariso haddii rabto jaad ha gado haddii rabto caano ha gado haddii rabto galay ha gado haddii rabto dawladda ha u shaqeyso haddii rabto meel kale ha ka shaqeyso waa hooyo marka gabdhaha Soomaaliyeed ilaa xilliga xaawataako ilaa halgankii ilaa Israel ayay dahabkooda gadayeen xoolahooda dhiibayeen marka doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin maba aha mid lagu soo koobi karo hal fadhi iyo maaragtay hal kaalin haweenka Soomaaliyeed iyaga in la midoobo kaalin ka qaato ayaga shirar kasta oo la isugu dardo amniga ah oo nabadeynta Soomaaliland dharkii tuurtay ayaga ooye ayaga qaydiyay ayaga yiri sidaan sin ma aha ma waxaan u galnaa cadowga marka haweenka Soomaaliyeed kaalinta ka qaateen waxaan ka arki doonaa dhalinta ay soo saareen shiilka maanta jooga Soomaaliya ee dhalinyarada ah waxa soo saara hooyo Soomaaliyeed waxa laga yaabaa aabaha markuu dhalay inuu u badan yahay inuu ka tagay ama uu leeyahay 5 caruur ay joogtay lix hase yeeshee uu soo ogeyn wiilashiisa iyo gabdhihiisa meel ay wax ku barteen meel iskool looga dhiibay meel dugsi looga dhiibay iyo inuu yiraahdo xagee u qaxdeen isagoo dana kale ku maqan ama burburinta qaranka ku maqan ama danihiisa khaaska ku maqan marka doorka haweenka Soomaaliyeed waa mid lama taabtaana waa mid maaragtay aan la sheegi karin hase yeeshee waa mid cadaalad sugayso oo markii cadaalad timaado iyo qof walba wuxuu qabtay insha Allah taala ay abaalkooda ay heli doonaan وهاجا ما سنتهاي وحكون لابن دونا سلام الله يكون لابن دونا طبعا wax badan ay faafayeen nadiifo oo ku saabsan doorka nabadda qurbo joogta ka qaateen si guud marka loo eego si gaar ah waxay tiri haweenku ay kaga awood badnaayeen ama kaga sareeyeen nakaas maxaa noo sheegi kartaa oo kaalin muuqata ah raggiina qurbo joogta aad kaga duwan tihiin ragga aniga elemedka qorrax joogta ah oo nabadda ka qaadateen maxaa inoo sheegi kartaa oo la taaban karo adoo qurbo joogta magacood ku hadlayo بسم الله مرة كومنت بدن إن كبحيو هذا الكي ولا شيء نظيف أي تري محيا لو أي هذا شيء وشيء حقه حقوق ضعوين كمرك الله فيريو حق إسلام كصد حجار مركي كو لا صد حجار حقوق ضعوين كله بحيي وإلهي ويري كو إذا حق كواد له لبعض أيضا عليه صدحات أيضا عليه أي أودي اللي كان أفراد بعض ليه marka halka waxa ka garanaysa mar walba xuquuqdooda ama mudnaantooda
islaamkiina waa caddeeyey ku dhaqankiina waa la yimid oo nadiifaa sheegto saddexda jeer ee la tilmaamay xagga xuquuqda ay lahayd ay doorkii kale ee bulshadana ay ku qaateen waa runteed haddii ay gudaha joogeenna waa halgameen dadaal weyn ay muujiyeen haddii ay dibadda joogeenna waa halgameen oo biilkii bay soo dhiibeen marka sidaa darteed marnaba wax kaalintooda la tilmaami karo ma aha waxaan soo dhaweynaynaa oo nagu soo biiray saa hore idinkugu sheeganay qayb barnaamijkeena dooda xildhibaan xuseen carab ciise oo horey u ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaana wasiirkii gaashaandhigga xubin ka tirsan baarlamanka federaalk soomaaliya qaybta golaha shacabka weeyaane ahna guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamanka waxa uu ka mid yahay qurba joogta gaamurtay oo waxuu ka yimid maraykanka waa nin dhalinyara laakiin waqti badan xaggaas ku noolaa islaamullah halkaa kasii wado oo soo laabanaynaa xildhibaanka iyo su-aalaheena insha allah maasha allah marka hore saaxiibkay xuseen carab ciise xildhibaankayga runtii saaxiibkay aad baan usoo dhaweynayaa sidoo kale isagaan tusaale usoo qaadanaya maxaa yeelay waxay su-aashaada ku jirta ragga maxay door intee la-eg bay ka qaateen taas waxaa tusaale kugu filan xuseen carab ciise isaga oo dhalinyaro ah oo dibadda ku nool oo nolol ku filan haysta ayuu wuxuu soo galay go-aansaday asagoo aabbayaashii ka wakiil ama ragga ka wakiila tusaale ahaan intuu soo xilqaamay si voluntary ah kusoo galay waddanka isla markaana xilkii ugu horreeyay uu qabtaa wasiirka gaashaandhigga oo halkaasi mataqaana dalka xoreyntiisii oo qayb kaga qaatay taasaa nabadda ragga ay keeneen qaybka ah tusaale ahaan markaan usoo qaato iyo in badanoo hadda aan haddaan sii gudagalo waqtiga uusan noo ogolaanaynin laakiin generally markaan idhaahdo doorka ragga ay ka qaateen waxay kusoo kordhiyeen mataqaanaa meel ay kulley caafimaad hadduusan jirinna wanaag bay imaan karaan dhakhaatiir bay keeneen macallimiin ayay keeneen raggu macallimiintii bay noqdeen dhakhaatiirtii bay noqdeen ciidankii saraakiishii dib waddanka ka baxay baa dib loogu soo celiyey wasiirka ka mid hadda naftiisa noo sheegi doono inta saraakiil kusoo noqotay dalka markii burburka uu dhacay kabacdi dib u dhiskiisii from markii 2016 dowladdii sheekh shariif laga soo bilaabo marka dowladda ninkii cabdullaahi yuusuf laga soo bilaabo dowladda sheekh shariif lagu soo xejiyo even dowladda cabdiqaasim salaad xasan oo runta iyada nafteeda gundhig u ahayd nidaamka transitional governmentigii lasoo maray dalka soo maray qayb weyn ka ahayd sukeenka koobaad ee ummadda soomaaliyeed saldhig u noqotay marka from that laga soo bilaabo waqtigaas aan idhaahda ilaa maanta ragga waxay ka qaadanayaan kaalin mugle saraakiil hadday yihiin way soo xaroodeen oo saraakiil badanaa gudaha ka howlgashay dhakhaatiir hadday yihiin way soo noqdeen macallimiin hadday yihiin way soo noqdeen marka runtii doorka ragga aniga ma jecleen inaan kala qaadno laakiin xoogaa waadna yara dhibaad garaysaan waxaan si common inaan u jawaabno marka laakiin generally markaan idhaahdo qurba joogta dalku ku soo noqotay wixii ay dalka ka qabteen wax yar ma aha quudintii day one markii dhibaatada ay dhacday oo civil warki dhacay oo dadku ay ka baxeen waddanka ilaa maalinkan maanta ah oo aan joogno ninbaa hadda runtii ka fadhiya ragga meesha fadhiya ka mid ah tusaale ahaan wuxuu usoo qaatay 4 biloodba mar baan qadimi jiray buu yidhi reerkayga biilkooda ee soo qadimi jiroon usii dhigi jiro yidhi hay-adaha xawaaladaha taas marka waxaa kutusaysaa raggu doorkiisa inuu qayb weyn ku lahaa marka generally runtii waxaan aaminsanahay qurba joog haddii aanay ahayn dalkan ma dhismeen stageka maanta uu joogana ma joogeen annagana markii daladan diaspora retirees oo STRN markii aan asaasayn waxaana lagu waraysiga koowaad markaan samayn waxaan the youth baratiin annagana daljoog baan qurba joog iyo qorax joog kalmadahaasaan aad ula dagaalanay ilaahay amarkiis kalmadihii muddo adigoo dhowr bilood ka bacdi markaan meelo badan ka hadalnay waxaa noo suurta gashay inay kalmadahaas meesha ka baxaan hadda waxaan jeclahay inayna jirin wax liyaa youth barag cidna dhihi karta inayna jirin baan aaminsannahay maxaa yeelay dalkii hoggaanna waa ka nahay hoggaankiina ka midaan noqonnay oo hoggaankii baan dalkii qurba joogtu waa hoggaankii dalkay qayb ka yihiin maamulka kala duwanaa bay ka yihiin ganacsatada bay ka mid yihiin dhakhaatiir bay ka mid yihiin ma garanaysaa marka bilicdii magaalada qayb way ka soo qaateen oo xagga dalxiiskii maanta waad aragtay muqdisho markaad aadaan dhinaca badda
liida markaad aadaan waxa hoteeli adduun loo dalxiis taga waad aragteen qurbajooga most of them dhistay marka qurbajoogta kaalintooda waa kaalin muuqato inay dadku ku faanaan weliba annaga shahaadooyin baan ku bixinaa sanadkiiba markii shirweynaha qurbajoogta dalku kusoo noqotay la qabto marka waa soo koobaa marka waxaan u jeedaa marnaba wax la inkiri kara ma aha haddii one by one afti looga qaadana ma u malaynaya wax 80 ka yar boqolkiiba inaan jawaabteeda inaan helayno u malayn maayo aad baa mahadsantahay mudan xildhibaanka u wareegsana xildhibaana marka hore adoo soo dhawaanayo mawduuca haddii aan mar kale kugu celiyo kaalinta qurba joogta dhisidda nabadda iyo dhisidda dowladnimada guulaha dib u dhacyada iyo waxyaabaha la filan karo intaas ayuu ku wareegsanaya insha allahu tacaala wax badan ayay falaqeeyeen walaalaheen nala fadhiyo oo ku saabsan oo quseeya arrinta qurba joogta iyo kaalintii ku lahaayeen nabadda marka dhanka kale laga eego dhallinyarada soomaaliyeed waxay leeyihiin annaga haddii aan ka qaadan lahayn door nabaddii ama dowladnimadii waxaaba naga hortaagan rag qurba joog ah oo iyagoo suudkooda iyo xoogaha doolar wato magaaladii soo galay marka dadka la dhaliil ayaa ka mid noqonaysa markii dhankaas loo eego xildhibaane maxay kula tahay kaalintiina nabadda intay gaarsiisan tahay mase is leedahay dhallinyaradii iyo dadkii kale ka hortaagantihiin in ay nabad dhaliyaan idinkoo doorkii weli sidii loogu talagalay aa u gaarin بسم الله الرحمن الرحيم حرام marka hore mahad celinaya in halka laga soo casuumo hay'adda kale halka fadhidana martida waa salaamintii kulli iyo nala jooga dhageysanaya warkan anu waxaan qabaa sidii gudoomiyuhu sheegay warba joogta waxa weeye runtii horta kulli Soomaali baa la weeyaa in aamino way taas qurba joogna sidee ku timi waa la wada ogyahay qurba joog waxay ku timi dhibaatada ka dhacday ayaa laga cararay dhibaato cid kasta ku dhacday cid aan ku dhicin ma jirto talabaad dhaqaalaheenu wuxuu ku dhisan yahay 90% lacagta qurba joog soo dirto waxaan qabaa kulli inta halka fadhida hadii la xisaabiyo 90% meel dibadda lacag ka timaada marka waxa weeye dadka qurba joogta lagu sheegaya waa dadkii annaka aan dirsanay weeye reerku waxa laga yaabaa inaan bay lacagta dhan isugu dubridayaan dabadna waxa loo diray waxa la adigu ama tahriib ama soco si marka aad qurbaha tagto aad lacag u soo dirto dadku waa isku xirayeen dalka in la wada difaacdana oo laga dhigo dal nabadeedna runtii qurba joogta cid ka jecel ma jirto sababtaan idin sheegaya marka qurbaha la tago dhibaatooyin badan baa la kulmaa oo ku dareensiinaysa dalkaagii inaad dhisato cunsuriyad badan baa kugu dhacaysa afrikaanaad tahay oo madow muslimaad tahay dhibaatooyin badan oo waxaad nin dalkiisii waad ugu tagaysaa markaasaad waliba leedahay waxaan ahay qaxooti waxaad siisaa lacag iyo wax free isi wad baryatamaysaa markaasaa sidii doonta lagula dhaqmaya calaqan halkan markaad habeenkii seexato waxaad ku seexataa xor baan dalkaaga adoo jooga ummadaada la joogta dalkaagii baad joogta meel aad adigu leedahay weeye marka runtii dadka raba inuu dalku hagaago oo uu dago si ay u soo noqdaan qurba joog cid ka jeclayna jirto anuu ma malaynayo maanta waa ogtihiin dadku say u soo noqdeen in yarba markay sii hagaagto dumarkii iyo carruurtii iyo isbaa lasoo wada noqonaya laannu nolosha halkan qofka nolol fiican ku wela africa ama soomaaliya ayaa qurbaha intii la doono ka wanaagsan waxba yaan been laydin sheegin marka runtii kaalinta ay ka geysteen maxay tahay marka way ku qasban yihiin markaan markaa soo noqonaynay waxaan u arkaynay waajibna lagu leeyahay inaan nimaadno aan garab istaagno annakoo og runtii dadkii halkan sii joogay inay dadka yani nabadda keenay ee ka halgamay ee dhisay maanta waxaan jira maanta inay yihiin yani anagu ma odhan karno intaan dagaalanay baan saarnay ama al-shabaab ama waxay doontaa noqotaan saarnay laakiin runtii dadka dhibaatadana ku dhacday siina joogay waa dadka halkan jooga weeye dadka halkaa joogan waxaa walaaladooda oo taageeraya oo iyaku dirsadeen bay ahayd marka inta laysu yimaado dalka la wada dhisto oo la wada difaacdo oo markaa laga kaaftoomaba qurbaha la degan yahay oo fasaxun loo tago meesha rabnaba halkaas runtii in la wada fahmo qalbiga la gashto laba group baniin marka qurba joog iyo dal joog iyo dalka waa la wada leeyahay waa Soomaali qofka Soomaaliga meesha doonta ku dhasho xaq buu leeyahay dalkan inuu ilaashado oo difaacdo marka runtii anagu waxaan ka geysanana waxa weeye dadka dibadda ka yimi hatta numberka eegto 90% waa laga badan yahay ama ciidamada ha noqoto ama shaqaalaha rayidka ha noqoto ama golaha ha noqoto baarlamaan iyo meel kaleba waa inta yar muuqato inta dibadda ka timi la arkayo laakiin inta badan waa ku yar yihiin
shaqaale marka la yidhahdo tamaarta ama wasiirra ha la yidhaahdo ama xildhibaanna ha la yidhaahdo ama meesha doontaba agaasimayaasha haddii la xisaabiyo boqolkiiba waxaa laga yaabaa dhowr iyo sagaashan inay noqdaan dal joog halka wax ku bartay oo ku barbaaray barbajoogta waa ku yar yihiin marka runtii waa waxa la doonaya dadka la isku diran mooyaane waxaas ma jiraan shaqada inta badan waxa wada way waa dalkii dalka joogay wax ku bartay dhalinyaro badan oo runtii jaamacada kaga baxday halkan oo waxaan arkay runtii aad isleedahay boqolkiiba boqol ka tayo badan yihiin dhalinyarada qurbaha ka timaada runtii lana waa nin dalkiisa ku barbaaray dhibaato kasta marxaladii la soo maray arkay asagoo intaas arkay haddana jaamacad tagay waqani qofkaas waa qof discipline la weeye oo yani 20 jirka waxa isla halkan jooga waxa laga yaabaa 20 jirka halka jooga ka maskax badan yahay laana dhibaato badan buu soo adkaystay oo qof isdiraya oo maaragtay duruufo adag ku soo koray marka runtii advantage badan baa leedihiin maaragtay oo ah dhaqankiinni iyo dalkiinni hooyo iyo diin wixii ku dhex korteen dadna ku noqoteen imka moogta marka ayaan kala saarnaa waxaan rabnaa kulli in inta qurbaha laga soo noqdo halka la wada yimaado wax la wada qabsado wata xildhibaan mararka qaar in la tartamo waxay fududeynaysaa in la gaaro goolkii la lahaa annagoo dhanka positive ka fiirinayno dadkiina qurbaha ka yimid iyo inta aan qurbo tegin siyaasadda ay wadaagtaan kaalinta dhismaha dowladnimada misleedahay way idinkaga dhiifooyin ama firfircoon yihiin maadaama dhibaato badan ay ku soo jireen idinkoo si kale u dhibaatooda haddaad doontaan laakiin nabaddaradii dilkii dhacii dhibaatooyinkii noocaas ahaa waa ka badbaadeen dabcan misleedahay marka way idinkaga firfircoonaayeen in la helo dowladnimo oo dadaal fara badan ay ku bixiyeen waxaan ku sheegay boqolkiiba boqol waan ku raacsanahay imika dhalinyarada qofka 5 jirka ah haddaad waraysato maanta wuxuu kaaga sheekeynayaa bas wuxuu soo arkay 5 sano ilmaha qurbaha jooga ma ku riyoon kara xataa arrintaas ma arkin haddana waa soo taagan yahay oo jaamacad buu ka baxaya af ingiriisi uu yaqaanaa af carabi uu yaqaanaa xafiiskii buu fadhiya uu shaqeynaya aniga way shaqeyn dhalinyaro badan inta badan anigu waxaan shaqaalaysan jiray dadka nimada iyo gabdhaha ka baxay jaamacadaha halkan yani waa dad adag runtii oo maaragtay aad u dhisan marka runtii firfircoonida waxaa keenaya in baahi bay u qabaan in dhalinyarada adduunka la baratamaan laakiin iyagoo dalkooda gudihiisa jooga ay fursadaha ku helaan annaka marka waajibkana saaran dadka dibadda ka yimaada waxa weeye intii wanaagsanayd aan kusoo aragnay dalalka dhisan inaan keenno halkan oo aan marka halka ku apply gareyno xumaan badanna way jirtaa halkan lala yimaado inaan taa ka tagno oo amartii hiddaha iyo dhaqanka iyo diinteena waxa aan halkan dayno laakiin systemka يعني maamulka dowladnimada wixii aan ku soo aragnay xaggaas inaan keenaa inta wanaagsan inta xunna ka nimaado oo marka la isugu yeeyo labadii system ka soo dhex baxo laakiin waa runta firfircoonida waxa keenay laana dhibaatada ay arkeen ay ku soo barbaareen ilmaha dibadda jooga ma arkin marka runtii waxa u haysa baahi weyn baa jirta oo inay xaq bay u leeyihiin inuu intuu subaxii soo kaco uu shaqeeyo oo reerkiisii ay helaan maaragtay adeeg bulsho waxa la yidhahdaa kontaraaga xukuumadda iyo shacabkooda galaa soo mara oo loogu maaragtay uu helo caafimaad uu helo iskool uu helo koronto wixii basiga ahaa nolosha waxayd qofku subaxii ama business tagi karo ama uu shaqo caadiya loo abuuri karo hawl xaq bay u leeyihiin marka intaas laga wada shaqeeyo waa muhiim marka qofka dibadda jooga baahidaas ma qabo oo iska tagi karaa laakiin ninka dalka jooga baahida wuu qaba meel uu socdo ma leh dalka gudihiisu joogaa marka arrintaas loo fahmo oo laakiin at the end of the day waxa kulligeen waxaan ka jeclaan lahayn ma jirto in halkan inta la wada dego asaan idin sheegay haddaan ka faa'iidaysano runtii ilaahay wuxuu na siiyey ya fasax inaan xagga u tagno oo annaka naloo yimaado immigrationka dhaxno sida lanoogu diido adduunka markaan marayno in maaragtay aan annaka oo hebel ma soo geli karaan dal hebel ma soo geli karo waa inaan gaarnaa insha allah waxaa lii sheegay aniga shalay odayaal la sheekaysanayay barigii hore khaliijka soomaalida sida lagu ixtiraam jiray waa laydinka sheekeyn malaynaya يعني أنا كنا يوم جرنا عنتي وحسين جرنا باهي مركز سومالي والله شعلا وفي مركز قضية أركي كويس بيانات وشوقي وحاجة وحبان صلاة سلام عليكم ما كير بيقولي سوري حاجة كتبت من السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقول عرّ ذاتك اللي يسوق أرض الجريمات لو أعوذ بالله سنية يرب وتاسو مريكا أنا كنمي لو لقصت في عنا كنا ولا عنه وح قيمها أو اللي هذا هاي dhibaatada aan arkay iyo qaraxyada iyo waxaas ayaa runtii boqolkiiba boqol habeenkan u sifac u seexdaa laano ma dareemaysid in laga maaragtay qof ajnabi waa lagu dareensiinaya halkaas inaad aan ka mid ahayn dhulkeenni maaha moogta dad baa leh marka runtii fikri ahaan iyo maskax ahaan idinka naga caafimaad qaba annaka waxaa weye dhibaato iyo cunsuriye iyo kalar iyo waxaasaa laga shaqeeyaa ilmuhu markay wada ciyaarayaan waxuu leeyahay ilmaha madow ilmaha brownka ah ilmaha yelowga ah ayuu leeyahay
waxa ma taqaanid marka runtii maskaxiyan iyo jismiyan iyo si kastaba runtii advantage idinka leh la wada dhisto ma loo baahan yahay laakiin qurba joog iyo dal joog iyo qadax joog ma jirto markasta nin u baa dhibaatada ku dhacaysa always ninka qadax joog kale waxa la oran karaa ciidamadeena hadda annaka na ilaaliya in askari maalin la weydiyo lagu dhib taqaanaa mukayfka ba taqaanaa wale ee siiga marka sir ha waa kan hawada kullu soo daayay Soomaaliya macnaheedu ma fahamtay ya ma isaga wuxuu u yaqaan mukayf inuu hawo kullu soo daayay lana xagga kale ka taagan yahay dibadda ka taagan yahay fahamtay ninka gudaha ku jira qabowga ku dhex jiro ilaalinaya fiir ninna wuxuu ku leeyahay qabow soo daayay ninna kuleel marka waxa runtii in la fahmo runtii waxaasoo in inta la analyze gareeyo oo la yiraahdo war Soomaali baan nahay dalkeena si u badbaadsanaa maanta waxaan ku dhawanahay in Soomaalinimadii baabacdaba sanu soo haysan dhexdeena inaan soo haysano qabiil iyo waxyaabo aan loo jeedin aan wax ku dhisan karlaan awgeed runtii inaan tafaraaruq ay inkastoo iska jecelna qabiilka iyo marba la isku maartay loo kala baxo groubiyo laakiin runtii wax la yiraahdo maartay qurba joog dal joog ma jiraan kulli Soomaali baan nahay dalkana waa loo siman yahay mana la kala laha shaqada marka hadduu nin walaalkaayo dibadda u dirsatay haddii intii baad halka ka shaqeeya xaq buu leeyahay walaalkaa way isku abtirsimatiin oo isku abiyahoyaan kale ma oran kartid anaa dalka joogo anaa shaqada leh soma marka waxa weeye waana kiisada tan lacag soo diray masruuf ay lacag maadaama dalkii uu ku jiro dib u dhis ya lacagta la soo diray la shaqeeyo ayaaba dalka lagu maamulaa marka waa family baartay la kala saaraya wata xilibaan oo maasanta ku soo laaban doona dhanka kale ayaa soo jileecaya nadiifo ayaa rabaa in su'aal weydiiyo saa ka warqabno mararka qaar waxaa dhacda in dad ka tirsan shaqaalaha dawladda marka xogaho meel fiican soo gaaraan oo agaasimay soo gaaraan inay u hanqal tagaan inay tagaan qurbaha si baasaboor ay u soo qaataan oo raggii qurba joogta ahaa oo kale oo la tartamaan ama waxyaabo la mid ah ama arkaysidba arday waxbarasho ku jira oo ku dhahaya marka jaamacadda dhamaysto waxaan rabaa inaan baxo oo xaggaas tago 5 sano baasaboor markaa soo qaatana kadib aan soo jabhadeeyo siyaasadda soo galo waxyaabo noocaas oo kale taa arkayno inta sida ay yihiin ay si ahaanayaan maxaa la filan karaa nadiif waxay ani ila tahay ra'yi ahaan ma qabo inuu qof si uu xil wadankiisa uga qabto inuu wadan kale u tagaayo oo maaragtay 4 sano 5 sano oo waqti intuu soo dhumiyo si uu ama agaasimo guud u noqdo ama wax kale uu u noqdo Soomaaliya systemka hadda taagan ee xilalka lagu qaybsado waa systemkii dabargooyada ahaa ee daacuunka ahaa ee 4.5 ka ahaa systemkaas oo maaragtay qofka haduu dibad joogo iyo haduu guda joogaba group A iyo group B iyo group C wax lagu qaato group A na looma fiirinayo haduu dibad jiro iyo haduu guda jiro hadba waxay ku xiran tahay sidii maaragtay Ilaahay qofkaas waxa ugu qoray ayay ku xiran tahay marka aniga ma qabo maaragtay in inta dibad loo aado si ama director general u noqotid ama wax kale u noqotid waxa laga yaabaa inay dadku ay raadinayaan sidii uu anaga hadda uu wasiirkeena sheegay wadanka waxa ugu soo noqonay sababta waan soo taabanay waan soo aragnay waan joognay mudaan jirnay waxbaan ku baranay haddana aakhirkii waxaan go'aansanay inaan wadanka ku soo noqono aniga hadda 9 sano aan joogaa Soomaaliya since 2011 kii aan imid ilaa markaas xaalado kala duwan waxyaalo kala duwan ayaa wadanka gudihiisa ka qabta meelo kala duwan hay'ado kala duwan ayaa u soo shaqeeyay waan fahmay Soomaaliya intaas waxa laga yaabaa fursadda aan u helayo wadanka iyo gudihiisa ama aan dareemayo inaan dibadda u helayn ama aan jaanis u helayn ama aan la ii siinayn fursad marka maadaama wixii naga dhaxay ay wadankan yihiin waxa aan leenahay ay ka yihiin waa inaan kan ka wada shaqeynaa marka kan uma baxayo qof inuu maaragtay uu shaqo helo laakiin shaqada laftirkeeda caqabada ka jirto oo mesela waxa ka mid ah caqabadaha haysto oo ka jirto gender balance oo kale aad iyo aad ayay maaragtay Soomaaliya ay ugu xuntaa dhinacaas oo kale malaha qof dal joog iyo dibad joog malaha arintaas oo kale hadii aad fiiriso maaragtay dawladda fulinta hadii aad fiiriso maaragtay saddexda qaybood oo dawladdu u qaybsanto gabdhuhu inta ay ka yihiin waa garan karnaa numberkooda hadaa director generalka aad fiiriso dawladda 27 wasaaradood waa u maleynaya hadaan qaldanayn hal agaasimo guud oo gabaraha ku jirto wasaaradda gaashaandhigga markii aad fiiriso waxyaalahaas oo kale micnihii hadii ay rag yihiin waxa baxaya si ay passport u soo helayaan waxaan leenahay annaga gabdhihi halkan joogo aqoontoodii la joogo
waxbarashadii la joogo dadnimadii la joogo iyagoo gabara iyagoo hooyo ah waxaan leenahay waxa loo doodayo gabdhaha ha lagu daro aqoonta iyo siyaasadana ha la kala saaro dhaqanka iyo siyaasadana ha la kala saaro mar kasta dulmiga ugu badan ama dadka waxaa keenaya markii qof aan u saaxiib ahayn uu hayo go'aankii decisionka uu leeyahay masalan haddaan idhaahdo oday dhaqameed oo kale kursiga meel ka bannaana qofaa dhintay tii allah ku timid waxaa lagu leeyahay kursigan ree hebelaa iskale yaa keenaya oday dhaqanaa keenaya odayga dhaqanka macno lama leh kursiga waxba lama leh hadduu yahay mid cirka laga hadlaayo ama diyaarado laga hadlaayo wuxuu keenayaa qof bartay maaragtay accounting ama qof nursing uu geynayaa meesha uu leeyahay ree hebel kursigiisii waa wiilka ree hebel waa inuu qaataa marnaba horta gabar kuma soo dhacayso marka inta misleadingkaas waddanka ka jiro ama nidaam darradaas ay waddanka ka jirto waxay la tahay nin taga iyo nin jooga midnaba waxba ma helaayeen xaqa allahana siiyo waa mahadsan tahay weli barnaamijkan ayaynu ku guda jirnaa goordhow waxa aynu jaanis u siin doonaa kasoo qaybgalayaasha iyaga qudhooda inay nagala qayb qaataan barnaamijka ama fikri ay kusoo beeriyaan ama su-aal ay weydiiyaan martida inoo fadhisaa ee barnaamijka ka doodaysa ama qurba joogta inoo fadhisaa ay idhaahdeen dhanka kale haddaa u dhigo salaamullaahi guddoomiyaha qurba joogtii dalka kusoo laabtay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal anoo dhan kale u dhigayo su-aalihii hore idiin weydiiyey mid ka mid a dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimada kaalin intee leeg ayaa ku laheedeen ay ahayd su-aasha ma ogtahay markii hore iminka saameyntiina dhanka marka loo eego kale saameyn intee leeg ayaa ku yeelateen ama kaalin intee leeg ayaa idinkaga dhaliili karaa in aad saameyn ku yeelateen in la gaari waaye nabad waarto oo dhammaystiran ama dhismo dowlad markaas raali laga wada yahay saameyn intee leeg ayay qurba joogta ku yeesheen in heerkaas aynu gaarno bismi illah runtii su-aashaasi waa su-aal markii si loo fiiriyo ku habboonaan lahayd cidda ay toos u qusayso arrimaha noocaas ah waa arrin siyaasad lagu halagelaysa haddii dhinac laga filo marka waxaan rabaa taa inaan saaxiibkii xuseen carab ciise in uu iga kabo anoo ka leexan doono meelaha qaar inuu isaga buuxiyaan jeclahay waa wadaagayna ani isaga arrintaas runtii arrinta aad sheegtay qurba joogta dalka ku soo noqotay ama SGRN dalada la yiraahdo aqoon-yahankeeda kala duwan waxaan isleeyahay wax haba yaraatee barrier ah waxa afka ingiriiska lagu dhaho ama mataqaanaa caqabad ah oo ay ku yeelatay ma jirto markaad fiiriso institutionadii la dhisay habka dimuqraadiyadda inay meel mariyaan iyo doorashooyinka one man vote si loo gaaro ama multi party systemka loogu dejinayo loogu adeegayo labada gole iyo dowladaba ay ugu talagaleen markaad fiiriso inta badan waxay ka mid yihiin qurba joog waxay taa u noqotayna waxa way si ay mataqaanaa nidaamka caalamiga ah iyadoona islaamkii laga tegaynin oo waxa la wixii diinteena saliimka ah ayna faraysa marnaba aan meesha ayna ka baxayn haddana wixii aqoon ahaa siduu u sheegay wasiirkeena xuseen wixii aqoon ah dibadda iyo wixii wanaag dibadda ka soo baranay ayaa gudaha keenay oo dalkii aan u soo maartay u soo gudbinay ama aan keenay biir waruntiis ayadoo taas ay tahay ay waxay qayb ka yihiin institutionadaas kala duwan oo howlahaas qabanaya ay lafdhabar ka yihiin oo u horeeyaan oo dhisiyaan habeen maalin qoraaladooda iyo aqoontooda iyo dibeedyadooda iyo howlahooda ay ku jiraan marka marnaba wax dhinaca nabadda hor istaagaya mataqaana ama waxaan leeyahay peace building wax leeyahay dhisidda nabadda dhinaca qurba joogta marnaba wax baarayna kuma noqonin hadiise ay jiraan waxaan u baasgaraynaa microphone-ka dad iga ogolaato saaxiibkay inuu ikabo waa tahay isla xildhibaanka ayaynu su-aashaas weydiinaynaa markaa microphone-ka uu dhiib xildhibaan ahay maxaa kaga jawaabaysaa haddii ay jiraan dhaliilo noocaas oo kale waa inaan xoogaha nafsirkayga xoogaa moogta inaan markastaysa ammaano maaha dadka qurba joogta runtii qaarkood way jiraan horta musuqmaasuq bar kasta wuu jiraa dad badan oo waxaa jira laakiin xaggaas nolol ku soo arkay oo
moogtahay wanaagga aan ku soo aragnay xagga systemka dawliga ah halan keeni karno waxyaabo waxaa jira xunxuno xaggaan lagu soo arkay oo yani sophistication xagga ah musuqmaasuq waxay arkeen kuwii baa inta halkan la yimaado laga shaqeysto dad badan baa shaqada inuu imanayaan ka shaqeystaan oo kaliya marka xilka laga qaadana ayar noqda way jirtaa laakiin sida sheegtay walaashay anigu 11 kiisaan ilaa hadda waan joogaa alxamdulillah lagu dar karo kuwaas laakiin dhibaatada jirta yaa labadeenaba dhibaatada jirta waxa weeye laakiin xagga qurba joogta lagu dhaliilay inta badan waxa weeye halka uu soo shaqo tagaan way imanayaan waxa weeye busjika yar hayaan bay inta ay joogaanna maaragtay runtii ma dhex galaan dadka lama degaan sidii ninka maaragtay qoladan xalana degan oo kala maaragtay ay u cabsoonayaan ma dhex galaan marka waxooda ka qaataanna waa iska noqdaan way jiraan group saasan lamana inkiri karo runtii dadka magac u keenay magac xumadana qurba joogta waa tiimkaas weeye laakiin inta majority-ga ah waxa weeye runtii waa dad raba inay dalkooda dad badan oo degay halkan oo ku aqalgalay oo iska degayna way jiraan oo reeroodiina keenay xataa way jiraan oo positionno badan wada qabtay laakiin groupka way groupka runtii annaka magac xumada noo keenay marka waxaa laga yaabaa in condition lagaga dhigay qofka malaa markuu yimaado inaanu 3 sano sii joogo marka xilka laga qaado laakiin muhiimadda waxa weeye isdhexgalka ayaa aad u yar marka halkan masjidda laga yimaado halkan lagu shaqeeyo marka dhaliilahaas oo kale way jiraan oo saan idin sheegayba dawlad wanaag laakiin xataa dad laakiin xumaan iyo system khariban la yimi na way jiraan runtii oo aan dalka dan ka lahayn marka in la kala saaro labadaas ayaa muhiima laakiin wanaag badan oo ma garanaysaa siduu sheegay systemka dawliga ee adduunyada ka jira iyo cadaalad wixii maaragtay aan rabnay inaan xagga ku soo nacnayna halka ka hagaajino waa muhiim in maaragtay aan ku caawino ummadda Soomaaliyeed laakiin qurba joogta dambiye badan naftirkooda way leeyihiin waxaa laga rabaa runtii inay daacad u noqdaan waxyaalka yimaadaan u fiirsa for example xataa baarlamaanka waxaa jira dad badan oo hore u sii joogo weligood aan bixin baasaboor lahayn inta badan xataa meelaha ay degan yihiin waa waxay gudaha ku jiraan oo degmooyinka gudaha ay degan yihiin inta laakiin ma garanaysaa cabsoonaysa waa intii cusbayd mardamatina diaspora ka timi ama maaragtay aan isla maaragtay hadda meelaha qashan waxba la yeelaya marka dhaqanka noocaas xaga uu sii bedelaya laakiin marka qofku sii joogo marka waa muhiim qofku marka ta kursigiisa inaanu cararin uu sii joogo uu ku kalsoonaado su-aasha aan rabay ka jawaab waxa weeye laakiin kala hadlo marka la leeyahay waxaa loo baxayaa qurbaha si baasaboor loo helo sababta maxay tahay waan buu dhalinyaro badan way ugu tiri يعني waxaan rabnaa inaan helo opportunity hadii wax dhacaan inaan bixi karo yani insurance buu yahay yani fikirkaas waa inuu isbedelaa waa in halkan maxaan uga samayn kar laanay yani xaq baan ugu leeyihiin dhalinyarada inay dalkooda xuquuqdaas ay dibadda ku helayaan ay ku helaan meesha annaka aan faylgaroonay marka runtii dadkan dhowr iyo tobankii sano system kusoo jiray weli waxaan abuuri kar laanahay environment ma imsa agaasima noqon kartaa imsa shaqaalaha reerka geli kartaa imsa baarlamaan geli kartaa waa 275 waxaa loo baahan yahay meeshan malaayiin inay la shaqaalaysiiyo marka private sectorkii ayaaba jirba shirkadihii iyo meelihii mogta dowladda xukuumadda ma mogta shaqadii kala aawo shaqa abuur ayaa la rabaa in la sameeyo hadda waxyaabaha la yaab kale aan aragna waxa weeye maanta miisaaniyadda la ansixinayay sanadkii horeba ee xukuumadda soo bandhigtay shaqa in la sameeyo shaqaalo cusub la qoro kuma jirin meelaha mushkiladda ay ka taagan tahay waxa weeye maaragtay in shaqa abuur loo sameeyo in la baro farsamadii gacanta 10,000 baa sanadka soo baxay jaamacadda dhamaynaysa meel tagan male dhibaatada ugu weyn dalka ka taagan waa taas yani in loo abuuro fursad dalkooda ku joogaan ay reer ku dhistaan ay ku helaan income ku helaan ay ku noolaan karaan ay business ka geli karaan ama shaqaale noqon karaan yani shaqa la'aantu waxay noqon kartaa 3% 5% yani dalalka qaarkood markay 8% gaadho waxaaba dhacba mudaharaadya dhaca innaka waxaa lagu leeyahay malaa 80 bay ku dhowdahay dal dhan oo shaqa la'aantu marka ay 80 ilaa 90% tahay see loogu noolaan karaa mas-uuliyadda marka waxay saaran tahay marba marka xukuumaddii joogta ama systemka dawliga ee jira dhibaatada meesha ka jirta halkaas marka maaha qurba joog iyo dal joog meeshan waxaa jirta runtii in si dhab ah oo wadaniyad ku jirto loogu adeego dhalinyarada maanta mustaqbalka maaha dhalinyarada maanta nolosha maanta ay taagan yihiin inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda laakiin annakii baa wixii ay kaga qayb qaadan lahayn aan u diyaarin insha Allah waxaan rabnaa in focuska la saaro dadkan dhoofaya waxaan u carrayaan maxay tahay waa nolosha la sheegay qurbaha jirta weeye ee foosha xun waliba qofku intuu qaato cayd ma garanaysaa haddana ku faraxsan yahay intuu xafiiska cayd asago yani uu yiraahdo waxaan rabaa lacag aniga carruurteedii guri bilaash iyo bari waaba yani waxaan noqonnay ummaddan oo hayr ku nool runtii wallahi bilaa intiina dalka degan ayaa runtii sharaf ku nool dhibaato kasta arka
waana aamintaan dalkaaga baa joogtaa Soomaaliya baa tahay waa maartay ama gaajo ku seexo ama caloosha ku buuxisay laakiin maanta ninka oran kara maartay ka bax dalka ma jirto ma ka baqaysaa marka runtii waxaan laga rabaa annaga waajibkana saaran waxa weeye mas'uuliyiinta waliba dibadii ama loo kala ahaadaane in aan abuurno environment ama jawi ay dhalinyaradu ku joogi karto kula noolaan karaan iyagii carruurtooda iyo xaasaskoodaba taana ilaa hadda wali ma maartay lama abuurin alxamdulillah annagu xukuumaddii 12 iyo 12 alaqal waxaan keennay markii ugu horreysay dalka la isku doorto oo magar system baan keennay dawli ah laakiin waxaan moodaa in maartay hadda ay istaagtay oo waxay marka in la sii kordhiyo maanta dalka oo dhan la hayo ya doorasho sax dhacdo iyo kanaan maartay loo sameeyo adeeg bulsho rasmi ah marka si aan loogu baahan dibadda loo baxo xildhibaan waxaa moodaa institution imika jira inaa markii dhan laga eegana si uu difaacayso marka loo eego qurba joogta eedda loo soo jeediyay haddana 3 sano oo dowladdii gaaraan xukuumaddii aanay shaqaale qaadan iyo waxyaabaha la xiriir marka loo eego madaxda dowladdana dhammaantood waa qurba joog sidaasoo kale waa inta u sarraysanay markaa ka hadlayno xukuumaddii iyo madaxweynihii ماشي واحد لو بهي والنمبر سو معها نمبر كدو مهم يعني سامين لك ور وسامين كرو انت نمبر كان تكتب بس هو اسكن سيئك موقت الى هي تروح قول لما بدل كرو والله بدي كور ريبه waxay local موقت بس بركه ولا ودل leeyahay oo فول حمد jirto waxa 4.5 soo maaha حتى nimagaas waxa ku baday 4.5 يا ما فهمت مشكلته weyn waxa weey asiga xataa qurba joog 4.5 ku yimid reerka qabiilkii laga ma laha ninka ama qof dumarka ah mashkiiladu meesha ka taagan tahay waxa weeye inaku waxa weeye adiga walaalka oo ka yimid Norway adiga isku aabaatay isku aftarsima ma ka qaadan kartid dalka kaba lihid samaha marka laba oran karo qofka haduu dambiile yahay oo tuug yahay waa wuxuu ku jira qabiilkaas dambiilayaashii tuugta laba oran karo waa qurba joog iyo waa local dad badan waxaan naqaanaa dal joog oo wada dalkan baarta wax rabaa ka sameeyay ama ilaa imika Soomaaliya ku jira marka qofku haduu khaa'in yahay oo uu tuug yahay oo master ku shaqeysto laba oran karo waa qurba joog iyo dal joog waa tuug qabiilka tuugta ku jira runtii inay kala saarnaa waata xildhibaan waa maasantahay waxaa ku sii shaqeynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaa inuu soo dhow salaadii maqrib marka 1 2 3 4 inta ka gaari karno ayaynu siin doonaa adiga ugu horeeya yarkaasaa ugu magacaygu waa Mahad Ali Shariif oo ka qalin jabiyay jaamacadda Darussalam University Social Science Department of Public Administration season 2017-18 waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aashayda xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka hadlay qurba joogta xildhibaan saa sheegtay qurba joogta hadda halkan joogto waxay iskugu jirtaa qurba joog fiican iyo kuwa xun dal joogta halkan joogtana waxay iskugu jiraan saa sheegtay kuwa xun iyo kuwa fiican marka sidaa uu hortagi karnaa dadka qabyaaladiistayaasha ama hadda ku jiro xubnaha ugu sarsaray ee dowladda tusaale ahaan dowladihii oo dowladdan ka horeysay marka qofka abni ku fashilmo ama wax oo ku fashilmo waa iska bixi jiray laakiin hadda qof marka uu fashilmo waxaa wuu sii faanayaabo dad baa sii taageerayo qurba joog ha aado ama dal joog ha aado marka sidaa uu hortagi karnaa dadka noocaas anigu horta waxaan aaminsanahay faasti in qurba joogta iyo qorax joogta intaba ay ajnabi noo keeneen oo system la rabo Soomaaliya in lagu kala gadgado ay tahay oo lagu kala qaybiyo markii la yiraahdo nabad hal la dhiso su'aashaas in la isweydiiyo la rabaa yaa horta nabad dhisi kara ma qof 30 sano ka dalka maqnaa nabad dhisi kara mase mid xilli kasta dhibaatada iyo dagaalka iyo qaxarka ku jira miyaa horta nabad dhisi kara in la isweydiiyo yaa muhiimsan marka koobaad marka labaadna waxaan aniga tala ahaan aan soo jeedi lahaa in system Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay system dhisitaan ay u baahan tahay ayadoo aan la iska qoloqleyn oo la dhihin kan waa qurba joog kana waa qorax joog in si guud wax loo wajaho oo Soomaaliya meesha ay taagan tahay xaaladeena waa ognahay يعني فكرة كنا وقرب جوج كنا وقرع جوج حوجا واحد كله فوقينيسا أركتي دتكاس أي كله فوقينيسا مرة هدي أركتي حوجا سكورت وادنا وحبلا ورد سكرو مدة كله تنا ولا شيء قلب أي كده وجينيسا أو هاي نظيفه هواك سومالي مرة كهليسي أنا شخصيا وحنا عم بسنة هاي دمرك الصومالية لأنت إذا بركي صومالي صومر إني دور مهم هاي كقاعتين أنا يهين سوافريال
u soo taagnaa inay dadka Soomaaliyeed ay soo samata bixiyaan ayna ka soo qayb qaataan dhisitaanka dowladnimada maanta aan sheeganayno ayna ahaayeen samafalyaal markasta u taagan markii nimanka Soomaaliyeed ay dagaal beeleedadii ay u kala iroobeen oo kala carareen dadka isku hayay ayaga ahaayeen marka dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa inaan xuquuqdooda iyo xaqooda aan ilaalino meeshan xoolo wax moodaa hadii ay debate ay tahay yani waxa ka maqan doorka ay ku lahaayeen dadka qorax joogta ah yani barnaamijkii waxa laga dhigay barnaamij oo ay kaliya ay wataan daadisanayaan dad oo qurbo jooga marka dhalishaasi kullaytaba xiriyaha inuu iska leeyahay aan filayaa inuu cuudaar la soo jeediyo uu yiraahdo barnaamijkani waa barnaamij waxa kaliya ku caasuunay dadka qurbo joogta raaliha naga ahaayeen dadka qorax joogta ah dadka dhibku haysto waa anaga waay ma qofka ninka qurbo joogta ah dadka dhibaatada ma walba ay haysato dadka dalka jooga waay ninka qurbo joogta markuu xoogaa kuleel damco uu baxa baasaboorka haysto aada marka anaga hadii aan nahay dadka qurbo joog dalka qorax joogta yani xilli kasta dhibaatadii baan joognaa caqabadii baan joognaa marka xoogaa dadka qorax joogta fursadaha la siiyo oo waqtigooda looga faa'iideysiiyo warma lagu dhibo xil lagu dhibo waa in ay la socdaan hadda khaladaad gasho ciqaab weyn la socotaa laakiin waxyaabaha ku cusub dowladnimada imika aan aragnay waxa weeye moogtahay ninba waxa la sheegay xildhibaan ah oo Ingiriiska joogay wuxuu u hadlayay waqti ba mikrofoonka la siiyay halkaas inuu yimaado ka hadlo arrin markaa dadka ummatala ahayd oo muhiim ahayd inuu ka hadlay ahayd 15 daqiiqo soo daahay waxa la yiri waa inaad sugtaa maalin kale halkii isku casilay يعني wax saa fudud wax la wasiir muhiimadda waxa weeye marka innaka dhibaatada haysta waxa weeye ninkaas wuxuu aan isku kalsoon markuu meesha iska casilo noloshiisa wax iska bedelay male shaqo wata adduunka leeyahay annaka mushkiladu waxa loogu dhagay kuraasta waxa weeye qofkii hadduu ka taga meeshaas ma noolaan karo waa dhibaato dadka CV-da la iga weeyay qofku waa inuu shaqada u noqonin meesha kali wax ka yaro talabaad cadaalad baa loo baahan yahay meeshan waxyaabaha burburay moogta dawladnimo waa saddex tiir moogtahay mid waa fulin oo waa xukuumadda iyagu waa adeegyada dhanka shaqo u dirna baarlamaanku waa sharci dejiye wuxuu oranayaa waxa qabta haddii qaban waayaan waa tallaabo laga qaadaa iyo garsoorkii oo halka taagan cadaaladii ah intiiba waxa weeye dhibaato ka jirta siiba tii kala saar lahayd dambiga ku ogolahay dadka ad kala saar lahayd ummadda yani dhibaato weyn baa ka jirta garsoorka been la isu sheegin aniga yani dalka intaas dad joogay oo wax soo qabtay oo saas sameeyay oo wax ka noqday haddana dhulkayga ayaa xaqdar lagu haystaa aan idin sheegay oo meel loo mara jirin oo maxkamad loo mara ay jirin wax laga qaban karaa ay jirin wax xaqdarooyinka dalkan ka jira weeye yani dadku way aaminsan yihiin marka waxaad yani haddaad maanta adiga aanad maxkamadda tegi karin oo aad waxaaga si saxa aan u soo bandhigan karin iyadoo aan musuqmaasuq jirin waa mushkilad iftir moogta waxyaabaha keenay marka dadku meelo kale u raadsadaan dalada waa taas marka arrintan waan kugu raacsanahay ninka dhalinyarada ah qofka haddii shaqadiisi uu gabo ama ay dhibaato badan ka dhacdo meesha mas'uul ka yahay waa ama aan laga eriyaa ama inuu iskaga tago laakiin inuu qofku sii joogo iyadoo dhibaato badan dhacday yani waa foolxubeenka jira weeye runtii ta kale waxay ahayd yaa keeni kara nabad yani ma qof 30 sano maqnaa mise qof jooga waxyaabaha yaab kale ayaan kuu sheegayaa Soomaali horta meel kasta ay joogto waxa meesha ka socda lug bay ku leeyihiin waxa dhacday maalin annagoo Mareykan joogna shir baan ka qayb galay laba beelood baa isku dilay Soomaaliya ma sheegayo marka groupkaas lacag bay waxay u gurayeen beesha Soomaaliya joogta qaybtooda lacag baa la diray hub lagu iibsado lagu la dagaalamo kuwa kale waya waxa ninkiiba waxa ku yiri adiga Mareykan waxa joogtaa markaas wuxuu joogaa 25 sanadood okay lacag baa u diraysaa ummadda halka waa joogta inta heshiisiin lahayd bugaag iyo qalamaan ay dir lahayd daawo in qor lagu iibsado Soomaaliya sababtuna maxaa weeye waxbaana laga xoogay maamul baana laga xoogay waxbaana laga xoogay halkana degan tahay Soomaaliya 25 sano ii sheeg baa duqa magaalada ninka booliiska haysta haddii magacyadooda ii sheegto ya waa waxa weeye adaga gar leh uu garan waa intiiba kuwaana la degan tahay maxaa u garan weydaan kuwa halka maxaad kartaa leen halkan nolol baa loo sameeyay dawladnimadaas cidda maamulaysa shaqadiisa ma laakiin tii dalka wali wuxuu ku jira reer hebel waxa laga dhacay yani dhibaatada marka waxa waa la isku xiran yahay qaar badan oo nabadeynta ka shaqeeyay way jiraan laakiin waa runta nin halkan u soo halgamay oo soo arkay oo dhibaatada leedahay runtii nabad uu rabaa laakiin dadkaasna ogaada qurbaha iyo beel sheegana waa lagu dhiban yahay qof maanta raba inuu ku noolaado qurbo wala inuu jiro ama uu noqdo laakiin waxa weeye sabab lacagta
lacag runtii waxbaan idiin sheegayaa soomaalida localka ah ganacsatada localka ah ayaa intii la dooro ka lacag badan dadka qurba joogta waxa weeye dad ama cayr ku nool ama shaqaale ah in yar baab ganacsadayaal ah runtii marka dadkan yar waxba baasaboorre limadan laakiin wax kale ma wataan halkan lacagta ka sameeyaan dalkan Soomaaliya gudihiisa ay lacagta ka qabtaan laakiin hay soornaan nan qurba qiimo lacag buu la imanaya kuwa lacagta haysta ma yimaadaan halkan fahamtay marka ina fahamtaan baa la karaba waxba yaa la degdegleen baasaboorkaas yar annaka laakiin waajibkana saaran waxa weeye inaan u baahnayn baasaboorka ajnabiga ah runtii sheeko yar baan idin sheegayaa oo runtii waqtigeeda kama qaadayo shir baan ka qayb galay niman ajnabi ah oo baasaboorre cid kasta ku jirto Soomaaliya wax loo raadinayay waxaan ka sheekay marka ilaahay khayraadka u dhisiin ugu manaysto fahamtay waxaan ku yiri waxaad Soomaaliya waxaad ka helaysaa in mala 1 kilomitir oo intaad badda ka kalumaysato marka ka soo baxdana aad biyo macaan qodan karto beerta ku taalo wabigii ku yaalo ilaa 2 kilomitir radius ya hawaduna aad adoo farqaawan geed iska seexanaysa wax ku dileen ma garata ka wabigii biyo macaana baddi beerti iyo hawadii ba hal meel ku helaysaa inta beed xeebta saaran wada aragtaa شلمبود ما تقدر تتواصل فهمت نين امباستور marka Finland kiiba ay jawaabeen markaas Finland ina taqaanaan moogeeriye Finland iyo Norway iyo Sweden iyo waa meelaha adduunka ugu qabowga badan qaarkood 10 bilood bay arkaa baraf bil bay arkaa qorrax dhan wuxuu yiri annaka ilaahay wuxuu na kor dajiyay meel barafa ya kun sano ka hor dib loo noqdo barafaas kor godad bay ku jireen godad ay ku noolaayeen quruxda marka arkina idinkana waxa aad sheegaysaa haysataan buu yiri marka wuxuu marka annagu ilaahay aan baryeena waxa ku dhirahay ilaahay tan hadda waa noo diiday tadambe insha Allah aan waxaan nasiisaa wabigaas inta sheegaysa ku ducaysanaa buu yiri adigina ilaahay ifku kugu siiyay waxa haystana fahamtay Soomaa ya meel maanta hadda xamarta aan joogno hadda laamiga seexatay barinto caawa seexatay dhaxan baa u dhimanaysaa kuleel dalka aan ka nimi masbaasmin kartid 10 daqiiqo ku dhimanaysaa hadda barnaamijka seexatay يعني هو حماده iyo duruufaha laakiin waxa weeye runtii waxaan ku feel garoonay inaan idin dhisno system yani ku joogta dalkeena waxa kaga faa'iideysataan maxaa moodaysan inay waxaan oo ajnabi adduunkan iyo jooga dalkeena gaaladan joogta maxay u manayaan badan la tameeyay Soomaali jacayl ba waxa ilaahay idin siiyay baan rabaa hadda nin baa shalay noo sheegay wuxuu yiri waxaan lagu tilmaamaa dameer malab lagu reeso ma wuxuu yiri waxa la goosay dameerkii malabkii la isla qaato hadda labadaba weyn ka warramay تسعته وين والله العظيم هذا فهم وين وحى هايسنو marka runtii baasaboor meemada saarina waxa dhimaan garaysan idinku aad dalbataan in leedin abuuro maartay adeeg bulsho sax ah iyo dalkiina aad maartay ku noolaan kartaan hadii leedin abuuro wayna marka aad arintaas ka hortimaadaan oo aad dadka su'aalo maartay aad weydiisaan oo la xisaabtantaan madaxdiina saddexda hay'adood baa la xisaabtantaan runtii ay xaq u leeyihiin waxa Suudaan waxay dhalinyaradu ka kacday roodi ba istaagtay halkana maalin kasta boqolkiiba 80 waa unemployment dhibaato waxa dhacay qarax maalin kasta dhacay amni darro ma socon kartaan halka waxa maleen dhibaato ku timaado markay imaneyseen waxa soo kale wana ka hadashaan weey dhibaato geystay mid la kawana istaagi kartaan oo aad su'aalo weydiin kartaan oo la xisaabtami kartaan mas'uuliyiintiina si ay marka u baahnaa dibadina u baxdaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Ustaad Cabdullaahi oo kamid ah akhyaartana la fadhida madaxda ah ee halkan joogta dhanka kalena qurbaha xoogaa soo joogasna tiimka qurba joogta soo galaya si asna committee-giisa uu beeriyo barnaamijka waxaan leenahay soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim waa u mahad celinayaa samadoon runtii waxaan salaamayaa dhammaan inta hadda howlkan joogta iyo inta kulley naga daawan doonto muxuu ahaay idaacadaha ama social media runtii inaan hadda barnaamijka qaato waxaan xoogaa igu qosbay laba qodob oo meesha aan xoogaa ani xaggayga marka la fiiriyo aan isiri arma laga haboona labadaas mid waxay ahayd in horta dadkii Soomaaliyeed oo dhibaatada ogood ku kala dhacday oo dalka dibadiisa gudihiisa ku nool in laba qaybood laga kala dhigo tan labaadna waxa weeyaan annaga waxa ku soo barbaarna qab Soomaaliya qabjabka waxa kamid ah in hadda la raadiyo baasaboor ajnabi ah waa nooc qabjabka kamid runtii annaga waxaan ogeyn oo ku soo barbaarnay
ayadoo qofka ajnabiga ah oo dalka Soomaaliyeed raba si uu fiiso helo in muddo dheer ku qaadan jirtay marka ninkii taa ogaa iyo ninka dhalinyarada oo u bixi dalka ah oo mustaqbalkii dalka inuu maantay xoogiisa dhan iyo fikirkiisa ku saleeyo inuu baasaboor ajnabi haysto waxa uu kala fogwa waxaan rabaa marka wax yar in ay dul maro ka oday ahaan marka dalka dibadda ku nool marka qaybaad loo kala qaybiyo waxa ugu badan 5 qaybood 5 qaybood ayaa hadda dadka intiisa badan 5 qaybood dibadda ku nool 4 qaybood si xor ah u tageen hal qayb qaxbay ku tageen dadka koowaad waxa weeyaan dad shaqo u doontay si kastaba ku tagaan dadkaas waxaan isleeyahay hal tusaale markaan ka soo qaato waxa policy ah siimaanada nimanka la dhigay nimanka waxay ku noolaan qab Soomaaliyeed oo ahayd inay dalkan oo dalkooda in kana soo shaqeystaan Soomaalidu geel ay jeclaan jirtay lacagta soo shaqeystaan ay geel ku gataan dad badan oo kala shaqo sidaas oo kale u doonto laakiin qab bay ku noolaayeen qolada labaad oo ayadana dibadda ku nool waxay ahaayeen qolada scholarship-ada iyo waxbarashada waa boqolkiiba 9 qabka qablamada ay ku noolaayeen waxayna dhamaantood ku fikirayeen inay waxay barteen dalka uga faa'iideeyaan qolada kale oo saddexaad waa qolo ayaguna ganacsi ka sameeyay qurbihii ganacsi ka sameeyay oo qaaradaha caalamka oo dhan markaa fiirisiis waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo ganacsi ku leh qolada afraad waxa weeyaan qolo colaadii markay dhacday door biday inay ku deganaasho ka helaan dalal kale intaas markii la isku daro waxa intaas oo jeer ka badan marka dadkii qaxa aaday markay iska maqaxin runtii sababay ku qaxeen niba sabab ku qaxay waxyaabaha Soomaalidu ugu duwan tahay qaxaas waxa weeyaan dhowr sababood waxaan rabaa jiilkan dhalinyarada inay la socdaan caalamka qaxwa ka dhaca laakiin waxa caalamka qaxa ka dhaca noogu duwan yihiin ayagoo qaxay ayaa dalalkooda weli u dhisnaayeen oo ay karaamo lahaayeen oo ay dalkii ku qaxaan safiirkooda helayeen oo ay dhigooda ka samaysanayeen oo dawladdu u cabtaanay lahaayeen annaga laakiin intaan wada qaxnay dhinac markii laga fiiro waa nasiib sababtoo hal mar waxa wada qaxay dhakhtarkii lawyerkii culumadii aqoonyahankii odagii muxuu ahaay nabadoonka ahay meel aan wada tagna qaxooti aan wada fariisan intaan isku xirinana kama faa'iideysan ayaan daradii ka mid tahay caalamka marka sidaas oo kale dalku qaxa waxba sababa ama dawlad kale ku soo duusha oo sababtay inay qaxdo ama qoomiyad meeshaas kala luqad iyo kala af iyo muxuu kala diinaha isku dagaal ama kelmadaba isku dagaal caalamka marka la weydiiyo war Soomaaliya maxaad u soo qaxdeen waxa alla wixii ku jawaabaan lama yaqaan waana waxyaabaha keenay Soomaalida dad hoos loo qaato dadan jirino fikireen dadka in loo qaato waxyaabaha sabab ay ka mid tahay waxay dad isku luqad oo isku af oo isku diin oo isku midaba wax ku kala bedeleen la arag haddana kala qaxay runtii waa waxyaabo ayaan daradii ka mid noqotay inta markii ay dhacday dadkii qurbihii tageen dib badan ay la kulmeen dhibka faraha badan ay la kulmeen runtii dhinacna faa'iido ka noqdeen dhibka la kulmeen koo horta waxa ka mid ah cimiladii wasiirka hadda ka sheekeynaa waxa ka mid ah cimilada waqti dheer aan siyaasan cimilada si uu dhibtoodo waa faalayla waxa ka mid ah bulshay u tageen luqadii ma yaqaana waa dhibaatada kale ay la kulmeen xagee isbitaalka doonanay xagee baska raacaysa xagee ka soo adeegana language-ka ay dhibaato kala kulmeen dhibaatada kale ay la kulmaan waxa ka mid ah culture-ki dhaqankii magaalada ninkaan ku nimaaday marka la fiiro caalamka oo dhan ayaa iskaga yimid oo min gees ilaa gees dhaqamo kala duwan oo niba wax gaar ah
aaminsan yahay nin walbana dhaqankiisu ku dhagan yahay dadka Soomaalida waa ku adkaada dhaqankaas in hore kala qabsadaan hal tusaale marka ay dhisiyo maalin biibitaan oo saan fadhina nin oday wiilkiisa 20 jir isla soo galay marka war odayaasha fadhiya warshaha cabawi ninkii biibitada shaah inuu gato shaah iyo la wadasho wiilkii 20 jirka oo iska taagan war markaas warbasha cabti markaas uu riyaa bixina meeshaas ninkaas midabka looga eegaya laakiin waxaad dareemaysaa dhaqanka xagoo haysta meeshii joogo dhaqankiisa si saaxiibkiisa day ballamaan ee magaalada ku ballamaan maanta inuu soo socontay dib wali jeebkiisa ku xisaabtamaya waxaan kaloo idin sheegaa dhalinyaro sida dadka loo wada cayn ama looga wada deerina ma dhalinyarada shirarka saa u taagtaagan darkiisin intay wax barteen ayay markii analysis sameynayaan nin kale Soomaali oo sameey kara ma jiro laakiin beedii dhaqankiisa kala duwan field kasta wax ka barteen qaatiiray noqdeen looyaray noqdeen ganacsaday noqdeen intaas oo field ay noqdeen ay wax ku barteen insuridii ay ku arkaan banaankan aad bay u jeclaayeen dalkooda inay ku soo noqdaan dalkii laakiin waxa looga dhigay bahal iyo balaayo iyo meel dhiig lagu cuno iyo balaayo dhuna looga dhigay adika la idinka rabaa in la idinka la saarin oo soo dhaweysiin in caddays markaas ma yaqaaniin ku qabsay ku qadabaysin ma yaqaaniin waa dad serious waxaan idinka rabnaa marka dadkaasi adigu iskaashtiin aqoonta way jecel yihiin halkaan inay ku dabaqaan adinka marka waxaan rabnaa in bees noqotiin oo halkaan aad tiraaheen war meeshii aad ku fulu leedahay anaga haysa adiguna aqoontiina looga faa'iideeyay laakiin hadayna waa aragtiin dad gaar sida meeshan wax caaw ka dhaco kala qurba jooga adiga aad soo aragtid dalkii joogo oo jiitan ka dhaxaysa waxba ma wada qabsan kartiin waxba ma wada qabsan kartiin waa tahay janaadana soo koobtid si waqtiga uga faa'iideysan waya waxa ugu qasbay inaan waxa soo dhan ka sheekay dhalinyarada waxa dhici karta waxa soo dhan in sanoobay marka adanikaana ugu dhagan wax badan waa idin ka sheekay lahay laakiin hadafku waxa waaye runtii oo aan rabaa inaan laba leedii kala saarin hal group oo wada shaqeyna dalkan cisidiisa waxa ku soo noqon kartaa adigoo wada shaqeeya baasaboorka Soomaaliga oo qiimo yeesho Anas Daahir Maxamed waa salaamintiin inteedaan muuqatay meesha wada joogta sidoo kale waxaa salaamayaa martida qoladan diyaasbarada la yiraahdo marka aniga committee su'aasheeda waxay noqonaysaa markii la dhaho diyaasbarada waxyaabo ay wadankan ay ku soo kordhiyeen iyo qaladaadkii ay galeen markii la fiiriyo hay'adaha dawladda 70% waxa ka shaqeeya dadkan dibadda ka yimaado waxa ka shaqeeyaan dadka dibadda markaan dawladdan u soo shaqo doonta ama dawladdeena u soo shaqo doonta 40% waa dadkii xaggii nolosha ku soo fashilmay oo xaggii waxba ka soo qaban waayay waxaana muuqata adkoor wasaaradda amniga sarkaal ka tirsan ama afhayeenkeedii wuxuuna dhaaya wixii dib wadankan ka dhaco anigii ilmahayga waxaana beeli doonta boqorada Ingiriiska marka waxa colaada ku hari doono waa adinka oo aan haysan baasaboorka dibadda marka halkaasi waxa ka cad meeshan in diyaasbarada ay u soo shaqo doonato hadhuuti markii shaqadoodii ama kursigoodii ay waayaan ay u noqdaan wadamadii cirta ay ka qaadanayeen shalay ay nooga yimaadaan marka maadaama anaga aan nahay dadkii wadankan joogay 29 sano la soo dhaafay dadkii maamooyinkooda ay la qaxayeen dhibaatooyin fara badan la soo wada maray marka aniga su'aashayda waxay noqonay waxaa noo roon in dadkaas dibadda ka yimid oo nidaamyo kala duwan iyo fikrado kala duwan kala qaba oo shalay maqaayadihii ay joogeen ay ku kaftamayeen waxa ay ku hayeen ay loola yimaadaan mise waxaa haboon dadkii wadankan wax ku bartay dhibaatooyinkii fara badan oo soo gegsaday oo soo adkaystay iyagoo hubiyaal iyo xabada ay dhacayaan wadankan joogay waxaa haboon in dadkaasi goobjoog u ah waxa soo dhacay meesha ay wax ka qaldan yihiin wax ka sixi kara nidaamka wax lagu shaqeeyay systemka hadda aan ku shaqeynana wax badan ku amaasantiin joogta waxa laga sheegay saas waqtiga u yareeysan istiqaal leedahay laakiin wax badan ka sheegi maayo aad iyo aad baa dhamaantood amaasantiin dadka wanaagsan oo meesha isugu yimi iyo macadka samadoon iyo aqoon-yahanka iyo bulshada meesha isugu timi aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa adeerkay oo tusaale fiican sameeyay oo wax badan iftiimiyay
adeer jasaakallah aad baa u mahadsan tahay haddii aan soo koobo inkastoo su-aalahayga qaar xildhibaan ku socdeen oo xildhibaankiina xoogaa idinka maqan yahay horta qurba joogta waa seef laba af leh labada dhinac waa leedahay sidii hadda ay xildhibaan ku dhawaajiyay kuwa dadka xabad isugu dhiiba oo rasaasta hubayana waa jiraan kuwa ilmaha iyo hooyooyinka dadka biila oo wax soo jaan qaada oo wax garab qabto oo wax lagu barto wax toosiyana waa jiraan marka waxaanu haddaanu dal joognahay waxaanu aad iyo aad u dhibsanay dadka qurbaha nooga yimaada seefta labada af leh tii xoog weyna iyaguna waxay yidhahdaan tooda wanaagsan bay sheegaan annagana tan kalena dhibta inay naga daayaan iyadoo commenti baan dhibsana baan ku rajo weyn inay naga daayaan taas waa tan labaad su-aasha labaad waxa weeye dalka waxaa hogaamisa qurba joog haddii xitaa madaxweynuhu dal joog noqdo mararka qaarkood ayba dhacday qolo kale qurbaha ka timi af ingiriis ku hadashaa xoog noo qabsata haddana maanta waaban haystaan halka aan idiin sheegayaa waxa weeye haddii madaxa dalka ugu sarreysa iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada badankooda inta wax fulinaysaaba ay qurbaha ka yimaadeen oo 30 sano iyo waqti dheer wada ka maqnaayeen horta la qabsiga inay wax qabtaan iska daayado environment soo fahmiyaan dalka inoo xiga maanta waa Kenya iyo Ethiopia anu soo jir baan Soomaaliya joogay haddii la yahay maanta maamul 6 bilood maamuli karo sababtoo environment ma yaqaan marka maxaa ka hor inaa wax maamushada aqoon leeyahay waxa ka horeysa waxaan khibrad u leeyahay marka waxaan aaminsanahay qurba joogtu inay surar badan noo soo qaateen waxyaabo badan lagu sireen taas waa taa xildhibaanka waa saaxiibkay hadii waa maqan yahay oo inaan xanto ma jeclin laakiin waa u iman doonaa su'aashiisa waxaan soo sheegayaa wuxuu hadaynay 2012 maano anigu ma laaban waxay u laaban waay wali xilkiisiiba haystaa laakiin wuu laaban lahaa hadii ka dhamaato saaxiibadii marka aad iyo aad loo maasantiin intaydaas ku soo koobaya su'aalaha xildhibaan ku socday xildhibaanku waa naga maqan yahay waa maasantiin waa liibaan axmed guuleed su-aasha horta waan salaamaya dhammaan marti sharafta meesha ka soo qayb gashay gudoomiyaha qurba joogta iyo mas-uuliyiinta kale meesha timid iyo dhalinyarada kulanka soo ajiibtay labadaba su-aalaha aan qabo inta badan waa su-aalahan dhalinyaradu hadda gadaal uga dhawaajiyeen markii hore laba taaban laga soo bilaabo dowladdii cabdulaahi yuusuf ilaa 2019 dowladdan maxaa cabdulaahi farmaajo waddankan dhalinyara u soo halgantay u soo dhimatay dhiigoogu u soo huray hooyooyin badan baa u qanxay ciyaal yar baa naftooda xilligii dagaaladii Itoobiyaanka waddankan xamar boqolaal kun oo shacab ku dhintay oo xitaa waxba galabsan oo xitaa dadkii isdagaalayaan ahayn dadkii duruufaha noocaas waddanka ku soo jiray ee u soo joogay in maanta dowladahan gadaal ka yimid ama kaba soo qaad dowladdan maxaa cabdulaahi farmaajo madaxweynuhu waa qurba joog ra'iisul wasaaruhu waa qurba joog ra'iisul baarlamaanku waa qurba joog golaha wasiirada 27 wasiir hadaan khaldan waa qurba joog xitaa qof dal joog ma jirto wasiir ku-xigeenada wasiir dowlayaashu waa la mid agaasimayaasha wasaaradaha 95 waa qurba joog advisorada wasaaradaha wasaarad walba advisor gooniye leedahay jirta advisorada wasaaradaha 95 waa qurba joog dadka consultantiyada sidoo kale waa qurba joogtu miyay ka xigmad iyo aqli badan tahay ninka 30 sano u dambeeyay duruufaha waddanka u soo jooga ama dhibaatada inta ay waddanka uga soo qaadanaysa taasi waa iga su'aasha labaad waxa weeye xamar 17 degmo ama gudoomiyaal degmada xitaa waxaan filayaa xitaa inta wax walba qurba joogti ka soo tagtay baa taliyayaasha ciidanka hogaankii ugu sareeyay qurba joog bay noqdeen gudoomiyaasha degmada iyo waaxaha gudoomiyaasha xitaa qurba joog laga dhigay marka wiilka qurba joogta ama Mareykanka ka yimid ama Ingiriiska ka yimid ee 30 sano waddankan ka maqnaa ama isagoo 10 jira ama 15 jira ama 8 jira waddankan laga qaaday xamar oo 30 ugu saneeyay macna 30 sano ugu dambeysay dhibaato ka jirto gudoomiyaha degmada tusaale ka soo qaaday dharkiinley ama wada jir hadii wiil Mareykan ka yimid laga dhigo gaari bal proof wata xafiisku subaxii tagaya habeenkiina jaziiro fadhiya habeenkii kale madaxtooyada isla laga yaabaa xarunta degmada uu maamulayo ama wacyiga degmada ka jirta xitaa inuusan la socon karin marka duruufu waxa weeye iyadoo la helayo dhalinyaradii waddanka wax ku baratay dhalinyaradii dhibaatada u soo joogtay dhalinyaradii xoogaalka waddankooda intaas oo sar u soo joogay sababta loo doorbiday qof qurba jooga in dibadda inta laga keeno waddankii xilka ninka dhalinyaradii muwaadinka ah xitaa uu qaban karo tusaale ereyga qurba joog ama diaspora waddanada dariska waxa looga isticmaalaa waa investors waddankooda dib ugu soo laabtaan maalgashi caalami ah waddanka ku sameeyay annaga qurba joogtayda dibadda ka timaada 95 waddanka maalgelin kama sameeyaan ama way yimaadaan boorsad baa nolol yimaadaan xil baa la qabtaa maalinka xilka laga qaadana
airportku dib uga laabto uga tagaa waan soo koobayaa taasina waa ii su-aal su-aasha saddexaad ee aan qoladan qurbi joogta u sheegay waxa weeye qurbi joogtu door way nooga qaateen abaal waan ugu haynaa waddankan markii la qaxay nidaam dawliya muddo 15 sano 15 sano 20 sano kama jirin anigayga cidda wax soo bartay waa hooyo dibadda ku nool oo intaan waddanka ka tegay waddan deris wax ku soo bartay haddana waddanka wax ku soo laabtay doorka ay bulshada uga qaateen waan uga mahadcelinaynaa laakiin in xilalkii dadka muwaadiniinta qaban lahaayeen 95 walibana dastuurka waddanku xitaa ma kala hagayo qofka muwaadinka hadda maxaa madaxweynuhu sidoo kale halkan yimid madaxweynuhu noqday baasaboorkiisu ka tanaasulo qofka xildhibaanka ama wasiirka ee qurbaha ka yimid ama diasporada ah si ilmihiisii iyo caruurtiisa intuu dibadda u geeyo uu tan maalinka xilku ka dhamaado uusan uga laaban baasaboorkiisa intuu ka tanaasulo waddanka hadduu soo dego dadkii wax la qaba xitaa aniga isaga muwaadinimada xaq baan u leenahay laakiin maalinka xilku ka dhamaado inuu isagana laabto dadkii kan la dhibaatada ugu hadho waa khalad baan aaminsanahay waa maasantiin qaybgalayaasha martida iyo guddoomiyaha ku dheeraamaayo waxay haddii aan soo koobo horta qurba joogta dhammaan horta waxay waayeen qaar wanaagsan waa ku jiraan qaarna way ku jiraan marka mawdacadahayna waa wada xun yihiin laakiin badanaa inta soo laabata waa dad noo soo shaqo doonta oo dhaqan xun hanoo keenaano oo dhaqanka isbeddel ay ku yeeshaan dhaqaalahana waxay geliyeen maynis oo ninka qurba joogta ahoo soo shaqo tago inta xil ka haaya caruurtiisu dibadda ay jiraan wuxuu sameeyaa mushaarka salariga uu qaato canshuurta gudaha laga soo aruuriyo salariga loo siiyo account dibadda ku dira ilmihiisa oo Yurub iyo bahalka Ameerika jooga ayaa loo diraa marka dhaqaalaha maynisay geliyeen dhaqankana way ognahay caqabadaha iyo xumaanta iyo waxyaabaha oo ay yeeshaan qaar wanaagsanna way ka buuxaan oo fiican oo macnaha markaas aan dhihi karinin walka ay wada xun yihiin su'aasha marka waxyaabaha haddii aan su'aasha aan abaaro guddoomiyaha hal su'aal ayaan weydiin rabay xildhibaankana wuu maqan yahay guddoomiyaha weydiin rabaa asiga hadda maadaama uu yahay guddoomiye team oo qurba joog oo guddoomiye uu ka yahay ma jiraan wax organization ah oo dalka inta ka hirgeliseen aad income oo amba dhaqaale ha noqdo amba waxana dalka aad ku soo kordhiseen oo dadka jooga qorax joog ay u shaqo tageen oo macnaha laga faa'iiday oo canshuur ay dalka ay kasoo gasho oo wax kasoo laabtaan ma jiro aad hirgeliseen oo macnaha aan dhihi karno qurba joogtu waxaas ay noo sameeyeen oo organization ah tan oo xildhibaanka dib loo sii comment gareeyo xildhibaanka waxaan weydiin rabay su'aal ah macnaha markii oo nin oo qurbaha ka yimid oo dalka ka oo xil ka qabto qof waxa laga yaabaa dantiisa shakhsi in uu ka hormariyo dan shisheeye iyadoo shisheeyaha oo macnaha laga yaabo in waan ognahay waxna way qabtaa dad oo shisheeyo ay dabada ka reexaan marka la danti isa Soomaali oo nala mid ah in waxa laga yaabaa oo shisheeyaha dantiisa oo ka fiirsado macnaha dantiisa oo dan shisheeye oo ka fuliyo gudaha ma jirta system baarlamaanka oo aba sharci ah amba wax oo baarlamaanku ay macnaha ka comment gareeyeen in sharci laga saaro oo wax shuruuc wax laga dejiyo in ninka xilka qabta baasaboor amba in laga waayo kala baasaboorka uu iska celiyo kala adduunyada way ka dhacdaa qof waxa wada waxa shuruuc waxa ah qofka qabta amba shaqadiisa ha noqdo amba xildhibaan ha noqdo inuu baasaboor ajnabi qof haysto uusan qaban karin marka maadaama anaga aan dadkan baajaani badan oo qurba joog oo baasaboor ay jiraan aan dhihi karin saas macnaha markuu xilka qabto inuu xilkiisa waayo kale sharciga noocaasa ma jiraan ma la comment gareeyo ma ridina in la soo saaro si macnaha kan oo baalka ahay shisheeye kalkaalka ah oo laga yaabo inuu dantiisa ka fiirsado danta ummadda Soomaaliyeed oo laga yaabo inuu hadhowto ka fiirsado barnaamijka su'aalahaas oo horta qurba joog maxaa la yiraahdaa in waxa laga yaabaa barnaamijka laga doodayo aan la fahansanin dad baan is fahansanayn qurba joog maxaa la yiraahdaa taas waa barnaamij waa su'aal ka mid ah su'aalaha qurba joog ninkii baasaboor ajnabi haysta la yiraahdaa ma ninkii ingiriiska aaday iyo qurba joog marka hore barnaamijka marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa al-xukm ala shay farc aan tasawuri marka shaygan ka hadlaydo oo rabto inaad tiraahdo waa qurba joogtu waxay noo soo kordhiyeen wax wanaagsan waxay burburay soo kordhiyeen waa in horta ayaga la yaqaan marka hore qurba joog horta la yaqaan marka hore fiican hadii laga hadlo taas su'aasha labaad waxay tahay ma la heli karaa madaxweyne aan baasaboor ajnabi haysan ma heli kartaa Soomaaliya waa la su'aal ku soo gagaweynaay oo tababarsantahay marka hore waxaad moodaa in xoga confusion uu mataqaanaa ku jiro dhalinyarada qaar waxa ka hadlayna mawduuceena ma aha wax afka ingiriiska lagu dhaho tit for tat oo isku farataagtaag ah
aragtida meesha taalla waa wax kala faa'iidaysi waxaa hadda ka hor jiray anoo jawaabta usoo noqon doono su-aalaha jawaabtooda soo noqonaya in yaroo dulmaraa samaynaya kadibna nadiifa ay igala wareegi doonta qayb kale waxaan u jeedaa markii aan ogaanay diaspora iyo qurba joog iyo qorax joog wax la yidhaahdo oo ayada nafteeda ahayd barnaamij la abuuray oo loogu talagalay dadkii dibadda ka soo noqday oo waxaa la yidhahdaa homesick ama daljacayl intuu ku dhacay jeclaada inay dalkooda ku soo noqdaan waxay haystaana la soo noqdaan hadday aqoon tahay hadday dhaqaalo tahayba la soo noqdaan oo dalkooda kula soo noqdaan markay dhacday oo ay sameeyeen sidaas sida nadiifo oo kale markii ay ugu horreysay dadka tiimka ugu horreeyay soo noqday ka mid ah nadiifo ayaa waxaa dhacday in loo bixiyey diaspora dadkii noocaas ahaa ayaa waxaa loo bixiyey diaspora waa kelmad embarrassing ah oo waa kelmad oo dhaawaca qalbiga taabanaysa qofkaas shalay biilaysay qofkaas shalay wax walba naftaada u horeysay oo markuu ku yimidna aad leedahay mataqaanaa diaspora marka waa kelmad xun bay ahayd marka taasaan ka dagaalanay annaga markii aan ururkan diaspora ritaniiskan la abuuray ama qurba joogta dalka kusoo noqotay aan la abuuray waxaan ka dagaalanay kelmadda ayada ah waxaa kaloon ka dagaalanay dareenka hadda adinka idinku jira ee ah in dadka dibadda ka soo noqda ay yihiin priority-ga koowaad ama privilege-ka koowaad inay ayagu leeyihiin shaqo bixinta markay noqoto kolley adinku inaad fiirsateen in kale ma ogi laakiin tv-ga qaranka barnaamijyo badan oo debate oo ka baxay oo aan ka qayb galay aa jirin iyo kuwa si gaar ah aniga laigu invite gareeyey oon kaga hadlaynay amaan kaga hadlay in ay noqdaan boqolkiiba 70 ama boqolkiiba 60 ugu yaraan markay goob shaqo timaado shaqo goob ay ka banaanaato hay-ad dowladeed in dadka dhalinyarada ee gudaha wax ku bartay oo u qalma aqoontooda qualified u ah maadadaasi hadduu macallin yahay iyo haddii uu maamul yahay hadduu dhakhtar yahay nooc walba ay noqoto qofka dhalinyarada ah ee gudaha wax ku bartay ee hawshaasi ama shaqadaasi iyada u qalmo iyo kan dibadda ka yimid markii la isbarbar dhiga imtixaanka markii xataa uu kan dibadda uu ka horeeyo in la siiyo privilege ziyaada in la siiyo kan gudaha jooga si uu u shaqo galo wax badan baan ka hadalnay meel goobo badan baan ka sheegnay proposalaan u qornay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadaan u qornay wasaaradda waxyaa ma garanaysaa okay ayaan u qornay wax badan baa jiray oo runtii looga hadlay arrimaha iyada ah xaqiiqatan marka lama mooga dhalinyarada maanta jirta halka gudaha wax ku baratay inay mudnaanta koowaad leeyihiin cid moog ma jirto institutionada dadka madaxda ka ah qarankana most of them way og yihiin arrinta iyada maxaa yeelay dhiirigelinta qofnimo ka soke dhiirigelinta shakhsiyaadka ka soke waxaa meesha ku jiraya dhiirigelin dhaqaale ama nololeed waayo wiilkan yaroo intaasi dhibka wax lagu soo baray oo qoyska ay ka sugayaan inuu wax dhaqaalaha ku soo kordhiyo waxaa mar hadday sidaa tahay waxaa laga maarmaan ah in isaga priority-ga koowaad la siiyo waxaan isleeyahay marka aniga meel yar baan rabaa inaan ugu noqdo nin baa wuxuu yidhi boqolkiiba 70 shaqaalaha dowladda u shaqeeya aniis inuu yahaan jeclahay ninkaas boqolkiiba 70 hay-adaha dowladda dadka u shaqeeya waa diaspora arrintaas iyadaa kuma raacsani waa arrin qaldan baan isleeyahay macnaha percentagekaas meeshuu ka keenay inuu noo caddeeya fiicnaan lahayd laakiin hadday tahay qiyaas uu macnaha waxaa la yidhahdaa personal opinion aragti qofeed hadday ka tahay waa sixi lahaa wiilkaasaan adeer ku ahay shaqaalaha dowladda ma noqon karaan sinaba uma noqon karaan boqolkiiba 70 dad dibad ka yimid oo uma noqon karaan dadka ku nool qurbaha dadka ku nool dhalinyarada waa ka nasiib badan tihiin aniga hadda carruurtayda nin waxaa jira jibriil la yidhaahdo oo ka mid ah carruurtayda tusaale hadda idinku soo qaato waxbaan idiin sheegaya jibriil waa 19 jir wuxuu dhigtaa wuxuu bartaa jaamacaddu ku jiraa wuxuu bartaa wax la yidhaahdo criminology markii dembiga uu dhaco sida loo baaro ayuu bartaa sanadkii u dambeeyna waa ku jira
dhaqanka uu leeyahay markaad aragtid ma aha dhaqan Soomaaliya ma aha macnaha physical appearance-kiisa siduu u muuqdo labiskiisa habkiisa inkastoo saaxiibkii Cabdullaahi uu yiri dhalinyaradu aad bay u dadaalaan waa run anigu gudoomiyaha jaalada UK baan ahaa Cabdullaahi wuxuu degan yahay Birmingham shirar badan baan xagga u tagayay magaalada London waxay u qaybsan tahay 8 qaybood baan u qaybinay 8 division qaybood ama base baan u qaybinay marka 24/7 waa lagu dagaalaa dhalinyarada in aad loogu dilana waad ka warqabtaan marka waxa dhaca 8daas qaybood qayb waliba nidaam loogu nool yahay dadka ku nool magaalo madaxda Soomaalida magaalo madaxda ku nool UK ee London iyo dadka ku nool Birmingham markii la fiiriyo xagga waxbarashada caruurta ama abniga ama xagga islaamka ku dhaqankiisa iyo quraanka barashadiisa waxa number 1 ku ah Birmingham magaalada uu ka yimid Cabdullaahi ayaa ah koow nasiib darro London oo caasimadii ah oo almost ay ku nooshahay 450,000 ilaa 500,000 lagu qiyaasi karo inay ku nooshahay Soomaali ah tirada waxbarata gabdhaha iyo wiilasha markii la isbarbar dhiga 65% gabdhaha waxa way waa top waxbarashadooda waa gabdhaha 65% gabdhaha ku horeeya waxbarashada waxaa jira gabdho yar oo number tira ku yar oo farakuntiris ah oo 2.3 dhan oo xoogaa aan maartay wax la drop out sameeyo oo ka baxa khadka ka baxa laakiin inta kale waa gabdhaha waa wax lagu xisaabtamo faamiladana way ku xisaabtamaan haddii laba gabdhood iyo hal wiil family leeyihiin way hubaan almost 60% in labada gabdhood ku xisaabtan fi mustaqbalka ay leeyihiin marka waa wiilkayga tusaaleedu ku soo qaatay Jibriil wuxuu bartaa marka criminology caruurtayda dhowr way waxbarashadooda ku wada jiraan way ficil alxamdulillah soo far way amni qabaan laakiin waxaan ka wadaa marka tagto xagga 19 jirka halkan jooga iyo kaasoo anigu aan dhalo tusaaleedu soo qaatay oo waxbarashadu ku fiican waxbarashadu ku fiican yahay oo ma sha Allah wuu shaqaysanaya hadana gelina waxbuu baranayaa gelina waa shaqeeyaa laakiin hadana dhaqankeeni ma haysto oo physically labiskiisa iyo qaabkiisa iyo wuxuu ka ilaahay iyo saaxiibada uu la socday iyo nooca yaana nolol maalmeedkiisa hab dhaqankiisa iyo wiilka halkan joogo waxa u dhaxay faraq weyn oo shaqo isku lahayn hadana waa laba wiil oo Soomaali ah kaas markuu halkan yimaado oo nin kale oo isaga daadiisa wiil kale oo daadiisa Soomaali uu barto oo saaxiibaan haddii aan la soo dhaweynin oo markii lacala isoo wax sakiin la arkay aan la soo dhaweynin isagu wuxuu dadka dama wuxuu siin doono feedback uu bixinayo markuu London ku noqdo wuxuu noqonayaa dadka halkan jooga inay yihiin dad aan wax fahmaynin xaqiiqatan oo sidii Cabdullaahi sheegay markii waxa loo baahan yahay si isagana uu u helo dad walaalihiis oo jecel oo dal iyo dad inuu leeyahay la dareensiiyo oo welcome back home la dhaho gurigaada ku soo asalka ah ku soo dhawow la dhaho even qofka noocaas ah markaan ka gudubnay Jibriil ka gudub qofka noocaas oo kale taa xataa haddii wax ka xun yihiin waxaan rabaa in la soo dhaweeyo oo la soco aad baad marka u mahadsantihiin anigu waxaan qabaa runtii nasiibka halkan aad ku haysataan xagga laguma helaayo nolosha halkan aad ku haysataanna wallahi inaan xagga lagu helayn nolol sacrifice ah oo dhib badan lacagna lagama sameeyo xagga percentage yara wax lacag ka sameeyo inta badan waxay la dagaalamaan quraacdooda qadada cashadooda iyo wax la mid ah because of waxa mushkilada ugu weyn oo jirto waxa weey guriga lagu nool yahay korontidiisa iyo biyihiisa iyo kiridiisa markaad waxaad soo shaqeyso aad ka bixiso iyo transportigaada markaad ka bixiso waxa kuu soo haray 20% ma badamaba aad u mahadsantiin وهذا مدن سؤالها كان يحسب قدوميها أنو كجاوب ولي وحكي جواب إن شاء الله ولا شيء نظيف هي waxay ila tahay su'aalaha maaragtay Maxamed ugu horeeyay istaasan jeclahay oo dhahaya macnaheedu yaa haboon qof maaragtay 30 sano wadankan dhex joogay oo ku rafaaday mise waxa haboon qof qurbaha ka yimid oo maaragtay waxba ku ogeyn wadankan inuu maamulo su'aashaas tan ku hormaro waxay ila tahay
soomaalida waxa ugu badan oo dhaqankeena ka mida waxay tahay mararka qaarkood ina xaqiiqada aan iska indhatirno oonu dhib guriga dhex yaalla aan bannaanka ka raadino ama aan cidaha dariska u qabsanno oo markasta waan isticmaalnaa waxaan idhahnaa quwado shisheeyaa gacanta nagula jiro wadan hebel aan haysto haddii aan dib yar wax yar taariikhda ugu noqdo 30 sano burburka jiray ma jirin dawlad dibad nooga timid oo na burburisay Soomaalidu waa inay intaas ogaataa maadaama idinkana dhalinyaro aad tihiin maskaxdiina ku haysaan annaga isburburinay annaga isbaabiinay waxaan isku burburinay waxaan isku baabiinayna taariikh la qoray oo og ma jirto dhibaatada ka dhacday 30 sano ninka joogay Soomaaliya nasiibkiisa ka bixin waayay burburku qayb ka ahaa ama qalbi ha kula jiro ama gacan ha ku jiro ama victim ha ahaado isaga dhibanaha ka ahaado ma ahayn inuu dhibka ka maqan yahay kan dibadda aadana dhibku ka cararay fursadu u helay inuu ka cararo waxa ku soo hore marka yaa wax maamulaya 30 sano midka burburka jiray oo isaga wax burburinayay isbaarada u tiilay qofka dilayay qabiilka ku dilayay dadka gubayay dhibaatada geysanayay ma aha inuu maamulo absolutely ma aha inuu maamulo qofka dibadda jiray aan waxba qabanin oo waxba baranin oo waxba kordhin ma aha inuu maamulo waxaan maamulayo labada dhinacba qofkii ku nool oo Soomaaliya oo akhlaaqiyadkiisa dhisan yihiin oo diintiisa dhisan tahay oo sharciga nidaamkii kala dambeynta iyo Soomaalinimada iyo calanka buluuga shanta xidig leh raba in la ilaaliyo sharaftii Soomaaliyeedna soo celiyo inay tahay waa in la helaa qof sidaas ay aniga ila tahay mar hadday labadaba Soomaali yihiin kii fiican aan maamulayo annagoon wiilasheena kala xigsaneen midda kale oo su'aasha ku xigto oo ahayd micnihii 70% waxa waaye dadka qurbi joogta ayaa micnihii haysto waxaan leeyahay iyo su'aashii kale waxaan isku darayaa ahayd ma dhici kartaa madaxweynayaasha inay Soomaaliya ay ahaadaan way jirtaa way dhacdaa madaxweyne Cabdiqaasim ma ahayn qurbi joog wuxuu ahaa madaxweyne Soomaaliya ahaa wali cala mas'uul ka soo noqday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ma ahayn qurbi joog madaxweyne Xasan Sheekh ma ahayn madaxweyne Sheekh Shariif ma ahayn intaasoo madaxweyne oo wadanka soo martay madaxweyne Cali Mahdi ma ahayn qurbi joog shantaas madaxweyne oo wadanka soo maamushay waxay ahaayeen madaxweynayaal dalka jooga oo aan ka bixin haddii marka dalka in la joogo iyo in laga baxay isbedelku ku xiran tahay way soo martay shan madaxweyne waa madaxweynihii ugu horeeyay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo qurbi joog ah marka in maaragtay wixii hore oo dhan laga dhigo ma aha waxaan rabnaa inaan markasta annaga aan isisaxno annaga aan isku tashano tan la leeyahay maamulada gobolka Banaadir ee xataa haystaan sax ma aha aniga aragtidayda iyo aqoonta aan u leeyahay wadankan gudihiisa 17 degmo haddii loogu bato 5 gudoomiye ayaa ka ah qurbi joog inta kalena waxa waaye dad wadanka aan ka bixin gudoomiye Cumar Finish laftirkiisu waa dadka aan wadanka ka bixin oo intaas Soomaaliya dhex joogay marka wadanku wuu deeqaa dalku waa weyn yahay aan gaarno xilalka ku soo hara ugu sareeyo aad leedahay qurbi jooga joogto qurbi joog ma geeyni shaqada ee oday dhaqameedka geeyay oday dhaqameedkana qurbi joog ma ah ee waa dad odayaasha wadanka 30 sano baabi'inay waxaad sameysaan u taga odayga dhaqanka waxaad tiraadaan shaqadan annaga rabno annaga leh noo cadaalad samee marka dhibka gurigiina dhex yaala ayaa dibadaha ka doonaysaan ka soo noqda isxalliya isla xisaabtama odayga dhaqanka la xisaabtama siyaasadda iyo dhaqanka kala saara aqoonta iyo dhaqanka hal kala saar waxay la tahay waa assignment Soomaaliya oo dhan u taalo dhalinyaradan kaliya ma waxaan u firaaya Soomaaliya oo dhan afrintaas u firaaya Soomaaliya dhaqanka iyo siyaasadda kala saara shaqada iyo dhaqanka kala saara dhaqanka qof la dilo iyo qof la xoogo iyo loogu tagi jiray mahana meel kasta dhaqankii naga galay ilmiya calool xumo ku reebay maamulkii liidinu ku sameeyay wixii dhan way isku qaldameen qof walbana meeshuu mudan yahay taqasuskiisa aqoontiisa ha loo dhiibo nin kalkaaliya ayaa la geynin duulista iyo hawada sababtoo diyaaradda ma jirano injineerna ma ah wasalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتهي
su-aalihii dhallinyarada ayna weydiiyeen kuwoodii ugu xasaasisanaa waxaa ka mid ahaa oo walaalkana weydiiyey ma jiraa qoladiina qurba joogta hal organisation oo wax soo saar leh oo bulshada u samayseen ugu yaraan mahadsan bismillaah waa su-aal fiican runtii annaga ururka dalada diaspora ritanis ama SDRN macnaheedu ma aha waxaad moodaa xoogaa meeshaas mugdi inuu ka muuqdo annaga macnaheenu ururka dastuurkiisaba kuma jirto wax liyaa dhaqaale abuur iyo shaqo abuur waxa weeye waa maxaa la yidhaahdaa non governmental organization isla markaana waxa waaye wax benefit uu qaadanayo ma jirto lacag mabda lacageedba kuma dhisna mabda shaqaale abuurana kuma dhisna waa laakiin waa advisor annaga waxaan samaynay haddeertaan tusaale ahaan markaan idiin soo qaado labadii wiigoo u dambeeyey waxaan la kulanay 7 wasiiraan la kulanay 7 wasiiroo la kulanay iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulasha axmed gaballe ayaan la kulanay barnaamij waxaan wadnaa hadda doqor magaalada ballan aanu leenahay barnaamij waxaan wadnaa ah in haddii ilaahay raalli ka dhigo caruurtan wadooyinka daadsan oo koolada dhuuqaya oo mustaqbal xumada magaalada iyo dalkiiba ku ah abni daradana ku ah la adeegsan karo inaan u samayno nidaam waxaan wadnay nidaamka isaga ah waa nidaam in laisla kaashada ah wasaaradaha jira hawshooda soo dhexgelayso caruurtaas arrintooda marka barnaamijkaasaan abuurnay waan wadnaa waxaa kaloo samaynaa meelaha ay dhibaatooyin ka jiraan aan caawinaad ka geysanaa waxaan samaynaa advisories waxaan hadda ka hor isku daynay inaan samayno wax la yidhahdo service provider ama inaan dad farsamo yaqaanaa sida ay u sheegaysay nadiifo inaan dadku wasaaraduhu inayna qofaan booska qofka marka la geynayo haddii wasaaraddan ay injineer u baahan tahay waa in injineer sax loo hela ama gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo inaan nidaam noocaas isku xir aan samayno ayaan isku daynay laakiin laguma wada guulaysan sidii la raba looguma guulaysan balse annaga sideena bannaanba waxaan samaynaa qiimeyn qofkii soo noqday oo qurba joog ah oo dalka ku soo noqday hadduu ganacsado yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu macallin yahay iyo wixii la mid ah waxaan samaynaa waxa uu qabtay baan qiimeyn ku samaynaa markaan qiimeyn ku samayno siday u kala roon yihiin ama u kala waxqabad badan yihiin ama u kala shaqo abuur badan yihiin oo dadka ay shaqada u siiyaan dadka ayaga ah oo shaqo abuurka sameeyey siday u kala sarreeyaan ayaa waxaan u bixinaa shahaadooyin sanad walba qabashada kulan sanadeedkeena hadda hoteelkan jaziira wuxuu ka mid yahay hoteelka waa qayb weyn ayaan shahaadaanu ka bixinay shaqo abuur badan uu sameeyey waxaan bixinay oo nin la yidhaahdo axmed village oo ahaa ninkii ugu horreeyey oo UK ka yimid oo ganacsi halkan ka sameeyey oo 2 jeer meheradiisa laga qarxiyey uu ninkii victimka ugu horreeyey oo runtii ganacsada ah oo dibadda ku soo noqday ah waxaan siinay shahaado waxa kaloo shahaado siinay hotel SYL oo shaqo abuur sameeyey nidaamkii ku sameeyay nidaam kale waxaan sameeynay rugta ganacsiga ayaan siinay wasaarada badan waxaa jiray shaqo abuur sameeyo aan ku dhiirigelino waan qiimeynaa waxaan qiimeynaa dadka waxqabadkooda aan qiimeynaa barnaamijyo badanaa jira oo iskood u madax bannaan oo dhakhaatiir leh oo macallimiin oo iskuulo leh oo aan shahaadooyin siina ayaa jirto dhiirigelin motivation ku sameynoo sax waad saxantiin hore u socda marka annaga waxaan qiimeyn dabagal ku sameynaa dadkan soo noqday oo dalka ku soo noqday wixii ay ku soo kordhiyeen ayaan qiimeyn ku sameynaa sababta taas ugu kaliftana waxay ahayd markii ay dhacday inay dadku u arkeen dadka wax soo noqday inay dalka wax ka qaadanayaan inay wax ku soo kordhinaynin iyo magac xumada ahayd diaspora labadaas arrimood ayaa sababtay markii ururku uu ka shiray waxyaabo badan ka dooday in labadaas arrimood meesha laga saaro kow in diaspora meesha inay ka baxdo labo dadka soo noqday waxqabadkooda in la muujiyo qofkii dalkan wax ku soo kordhiyey iyo qofkan wax ku soo kordhin in la kala qaado oo kala cadaadaan aad baa mahadsantiin waa hagaag adigana aad baad umahadsan tahay waxa uu ahaa cabdullaahi maxamed aadan salaamullah ku magac dheer waxaa aynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka waa ka cudur daarnaynaa cid walba oo su-aal
ka guuxaysay maskaxdiisa rabay inuu weydiiyo martida insha Allah fursado kale iyo xilliyo kale ayaa rajeynayna insha Allah inaan ka faa'iideysan doono mowduuceena inta ayaynu ku soo afmeerinaa dadka qaar meel fog u jiifaray xilli habeen oo lagu jira mahad balaaran ha ka gaarto Xuseen Carab Ciise oo inoo ahaa marti iyo sidoo kale Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah iyo Nadiifo Sheekh Cumar iyo dhammaan inta kale ka soo qayb gashay qof walba booskiisa magaciisa iyo maqaamkiisa ayaynu ugu mahadcelinaynaa tan iyo kulantiga dambe barnaamijka lamida bahdi Samadoon waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.